شاء الله تكب لها نود ما تتوان كي دقوا متقنا ardayda متقنا khiyaarta kale soo gali lahayd aa u talagalay soo dhawaada mar kale caawa insha allah ay taariikhda soddonka bisha toddobaad 26 insha allah halka nooga qabsoomi doona tababarka martina uu yahay jamac abdulaahi xuseen maxamed oo aqoonyaha Soomaaliyeed oo jooga waddanka China marka waxaan insha allah sessionkeena hore u gallo aniga horta magacay waxa la dhahaa Abdirasiid Ismaan waxa ahay coordinatorka Somali Student Network sidoo kale khiyaar kale oo waxa waaye oo baa noogu jirta sessionka nagala qayb galaya marka insha allah ugu horreyn waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo aasaasaha madasha Somali Student Research Network Dr. Cabdinaasir Xirsi Cabdi oo insha allah naga siin doona waxay tahay Somali Student Research Network iyo waxyaalaha ay qabato marka soo dhawow doctor sharaf inoo tahay nagala soo qayb gasho sessionkan marka soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنجنير سعيد aad iyo aad u mahadsantahay qaabka quruxda badan oo aad barnaamijka waxa weeye maaragtay noogu bilowday iyo adiga iyo guddiga Somali Student Research Network aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waxaan sidoo kale u mahad celinayaa keynote speaker keena caawa waxa weeye martida inoo ah Engineer Cabdinuur Xuseen oo runtii waxa weeye iyadoo xilli dambe ay u tahay China waqti dambe ay u tahay haddana waxa weeye aan rabno insha Allah caawa inaan ka faa'iidaysano China waa waddan aad u ballaaran waa meesha waxa weeye adduunka u socdo scholarshipska China ka jira 1 2 3 ma ahan aad iyo aad ay u fara badan tahay waxaan aaminsanahay caawa macluumaad fara badan oo aad iyo aad u fara badan oo valuable ah inuu inala wadaagi doono injineerka waxaan rajaynayaa from start to the end inaad ka faa'iidaysataan waxaan ka cudur daaranaynaa inaan codadka xirnay dadka dhammaantood aan ka xirnay laakiin qof walba su'aaluhu qabo commentigu qabo insha Allah gadaal baan uga fasaxi doonaa si aan u yareyno disturbansiga inta dabadeed waxaan rabaa inaan idinla wadaago Somali Student Research Network waa maxay Somali Student Research Network waa madal u taagan ardayda Soomaaliyeed dalkii badankood wax ku bartay iyo kuwa qurbaha joogaba oo danaynaya fursadaha waxbarasho ee qurbaha in lagu gaadgareeyo lagu hago fursadaha meelihii yaalaan qaabkii loo xareyn lahaa wadamada waxa weeye kala duwan scholarshipska ay maaragtay sameeyaan sababta aan u sameeyay Somali Student Research Networkna waxa weeye iskuulka xilligan dhameeyay aad bay u adkaatay inaan direct jaamacadan u aado waxa waaye ardaydan iskuulka la dhiganayay sanad baan ka dambeeyay inaan jaamacad bilaabo sanadkaasna waxaan noqday macallin lacagta aan sanadka shaqaysanayay ayaan waxbarasho ka aaday haddaan waaga heli lahaa marka cid igu gaadhgaraysa fursadaha iyo jaanisyada qaabka loo xariisto runtii waan ku dadaali lahaa dabadeed baajkii masterkii waxa waaye waxaan ka soo qaatay Pakistan dalkan dib ugu soo laabtay PhD baan raadiyay PhD-dana fursad waxbarasho oo aan Malaysia ka helay oo research grant ayaan ku dhameeyay dabcan waxaan aaminsanaa arday anigoo kale inay dalkii joogaan danaynayaan fursado iyo jaanisyo waxaan sameynay Somali Student Research Network waa madal u taagan in ardayda Soomaaliyeed lagu gaadgareeyo fursadaha iyo jaanisyada caalamka ka jira Somali Student Research Network dad badan baa ila soo xiriira na soo weydiiya inaan applicationada ka caawino lacaga noo offer gareeya arrintaas anagu ma qabanno 100% waxaan u taagannahay waxa waaye kaliya inaan fursadihii jaanisyadii qaabkaad u xareysan lahayd qaabkaad fursadaha u raadsan lahayd aan kugu gaadgareyno shaqada qofka qabsanaya waa adiga marka taas waxa waaye maaragtay wax faa'iido doona dhaqaale raadis ah uma taagnin waxaan u taagannahay waxa waaye in waqtiga iyaga qayb ka mid ah si volunteer ah dhalinyarada dadaalka badan waxa waaye maaragtay inaan ku hagno fursadaha meelihii yaalaan iyaguna ay ku dadaalaan insha Allahu tacaala wadamada kaleeto oo waxa weeye caalamka Pakistanta Hindida sidaas oo kale isku caawiyaan marka waxaan insha Allah rajaynayaa in Somali Student Research Network ay noqoto madal waxa waaye maaragtay ajendaha aan u abuurnay kamira dhalisa caawana
tana qayb ka ah marka waxaan rajaynayaa insha allah inaad ka faa'iidaysataan una fahantaan in Somali Student Research Network ay tahay madal u taagan fursadaha iyo jaanisyada ardaydu ay danaynayaan inaan la wadaagno qof walbana waxaa looga baahan yahay in uu fursad iyo jaaniska raadiyo waxaanu marka ku gaargaraynaynaa maxaa lagaaga baahan yahay fursadu xaggee kaa jiraan jaamacadahee baa ugu fiican scholarshipyadee baa ugu fiican waddan walba oo scholarships laga bixiyo waxaan rabnaa insha allah inaan dadka invite garayno China wadamada ugu fiican ugu tayada sarreeya waxbarashada caalamka ayay ku jirtaa marka insha allah caawa inaad ka faa'iidaysataan injineerkan rajaynaya next session waxay noo xigi doonaa insha allah talyaaniga iyo wadamo aad u fara badan insha allahu tacaala marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinku soo dhaweynayaa Somali Student Research Network waxaan u mahadcelinayaa guddiga barnaamijkan ka shaqeynaya Cabdallah Saciid maxamuud iyo farxiyo aad iyo aad u mahadsan yihiin waqti fiican iyo juhdi badan bay bixiyeen runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa injineer cabdinuur oo barnaamijkan insha allah caawa aan ka faa'iidaysan doono sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan participantska insha allahu tacaala waxa weeye waxaan rajaynayaa inaa wax badan kala faa'iidaan adiga iyo idinka iyo injineerka haddii waa la yidhaahdo aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan idinku soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaad Somali Student Research Network aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ترى عاد بما حصلت هاي كلام هذا علنا كلام هذا علنا نعطي بدل كاي نصو بيسي نسي دليرت الصومالية ما كستيج شوغان كان واحد ترى فرصة عالم كتير سي لويس وذاقها لونا حق لها سيدا ونا أكسن إن شاء الله قد قلنا جرى عدول تانو قدين وحروانا كسود دوية قدوميها Somali Student Research Network نجرى عبد الله أحمد عبدي إن شاء الله سأكسر وين دون هدلات كديو نجرى عبد النور حسين مركا سودو قدومي عبد الله واي مقلة يا ملينا gacanta soo taago ku dheh عبد الله قدوميها مدرسة Somali Student Research Association أقصد وين قدومي هذا المقلة سودو runtii waxa laga yaabaa inaan mataqaanaa muddo ka jirto marka insha allah hore uga soconayna insha allah si aan u gallo guda gallo tababarkeena soo dhowo gudoomiye soo dhowo aad iyo aad aa u mahadsan tahay waxaan mahadcelinayaa doctor cabdinaasir marka koowaad oo ah dabcan oo ah shaksi waxa waaye aad iyo aad garaad leh qofka kale sababtoo ah wuxuu gartay inuu isagoo si volunteer ah oo naftiisa waxa weeye u go'aamiyo inuu si mutadawacnimaha ardada Soomaaliyeed faa'iiday isagoo waxba ka qaadanin doctor cabdinaasir aad ugu mahadcelinayaa intaas doorkaas muhiimka ah sidoo kale sessionkenaga caawa waxaa marti noo ah injineer cabdinuur xuseen maxamed ayaa noo ah marti injineerka wuxuu waxa weeyaan noo sharixi doonaa sida deeqaha waxbarashada dowladda China loo iyo welibana deeqda diyaarka ah doctorku wuxuu bartay waddanka China sida daraaddeed waa qof ehel u ah oo fahamsan deeqda waxbarashada dowladda China sida loo xareeyo guidance-geeda iyo rules-keeda iyo requirement-keeda oo dabcan aad u fahamsan yahay doctorku jaamacadda Fangil Hiraado oo aan sanay jaamacadaas uu ka bartay civil information engineering isagoo ku takhasusay macluumaadka intelligent construction waayo aragnimo badan ku leeyahay kusoo shaqeeyay meelo kala duwan kusoo shaqeeyay si fiican u fahamsan yahay dabcan sectionka la xiriira China scholarship marka session ka dhaweynaya haddii aan dabcan waxaa noo jiri doonaa ayadana
attendance aan noo jirnin attendancegaas waxaa lasoo dhigi doonaa qaybta jaatinka lasoo dhigi doonaa qof walbana attendancegaas waa inuu buuxiyaa dabcan waxaa jiri doonta shahaado oo shahaado la bixin doono oo qof walba informationkiisa uu reebo loogu soo diri doono haddii aan leedno si bilaash adna lacag kaama rabto attendancegaas waa soo diri doonaa insha allah dabcan waan idin xusuusin doonaa waxaan kusoo dhaweynayaa injineer cabdinuur baan kusoo dhaweynayaa asalaamu calaykum waraxmatullah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. marka hore waxaan mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala na siiyey fursadan qiimaha badan isu imaanshahan iyo caafimaadkan. marka labaad waxaan u mahad celinayaa injineer cabdinaasir oo ah ninka soo agaasimay madashan. waxaa aad ii taabtay hadal uu yiri injineerka daqiiqado ka hor oo ahaa xilligii uu dhameeyey jaamacadda in uu waayey qof ku hago jaamacadaha. inkastoo hadda ardayda Soomaaliyeed ay si fiican u fahmayaan scholarship-yada iyo fursadaha caalamka ka jira, taa oo haddana si fiican nooga saacidayso social media-ha iyo internet-yada aan wada furan. waxaa mararka qaar aad uga maseeraysaa wadamada uu ka dhawaajiyo oo Pakistan ay kow ka tahay markii ay YouTube ku qortid tusaale program ama fursado ama waxbarasho ama xitaa iska dhaba WhatsApp-kaaga waxaa kaa ciladoobay status-ka wax u dhigi lahayd oo kale YouTube-ka markaad tagto waxa ugu horeeya aad raadiso qofka ugu horeeya aad heli doonto waa qof Hindiya ama Pakistan ka imaaday. marka nimankaa oo dad aad isu caawiyo, dad fursadaha aad uga faa'iidaysto. tusaale oo kale hadda scholarship-ka ugu badan ee helaan ardayda Pakistanta waxaa ka mid ah China, waxaana ugu wacan inay leeyihiin groupyo community ah. haddii YouTube-ka aad ka baarto oo kaleeta ama Facebook aad ka baarto scholarship-yada China oo kale waxaa arki doontaa boqolaal group oo arday Pakistan ay leeyihiin. taa waxay caddaynaysaa sida ay isu caawinayaan dadkoodana isugu faa'iideynayaan. waxaan marka injineerka aad iyo aad ugu mahad celinayaa in fursadan uu abaabulo barnaamijkan uu soo diyaariyo ardayda Soomaaliyeedna ay ka faa'iidaan isuna caawiyaan hadba markii karaankooda iyo wax ay heli karaan. waxaan maanta insha allah isku dayi doonaa intii karaankeyga inaa waqtigoo kooban isu dayo inaa maxaa la yiraahdaa si fiican u sharaxo scholarship-yada ka furan China from bilaab ilaa dhammaad, maxaa uga baahanahay, sidee jaamacad ku dooran doonaa, professor sidee email ugu diri doonaa, xilligee jaamacadaha la xariistaa, requirement-iga la iga baahan yahay. waxaan filaa xilliga aan kusoo aadnay inuu yahay xilligii ugu habboonaa sababtoo ah scholarship-yada China waxay furmaan bisha 9aad sanad kasta waxayna ku egyihiin badankooda bisha 3aad ee sanadka kale. xilliga bisha 8aad waa xilliga isdiyaarinta oo ardayga uu isdiyaarin lahaa, jaamacadaha uu sakal ogaan lahaa, scholarship-ka uu rabo uu ogaan lahaa, kadibna uu shaqadiisii bilaabi lahaa. fursadda caawa waxaa isleeyahay waa fursaddii ku habbooneed qofkii raadinaya China inuu waxbarashadeeda iyo minxooyinkeeda raadiyo. waxaan isku dayaynaa inaan marka session-keena bilaabno. magacayga waa Cabdinuur Xuseen Maxamed, arday wax ka barta jaamacadda Tonji, majorkiisana waa civil engineering. waxaan marka maanta si fiican isugu dayi doonaa from bilaab ilaa dhammaad scholarship-yada China waxa ay yihiin. scholarship-yada China kow waxay u kala baxaan horta sida koowaad scholarship qofka uu shakhsiyadiisa u raadsan karo iyo mid uu dowladda soo mari karo. scholarship-ka ugu caansan waxaa la yiraahdaa CSC scholarship. scholarship-ka waxa uu leeyahay 3 qaybood. qaybta koowaad waxaa la yiraahdaa CSC type A, qaybta labaad waxaa la yiraahdaa CSC type B, qaybta saddexaadna waxaa la dhahaa CSC type C. type C-ga anagoo xooga aanan saaraynin waxaa inta badan xooga la saaraa type A iyo type B. CSC type A iyo type B maxay ku kala duwan yihiin? type A waxaa u baahan tahay inaad soo martid wasaaradda waxbarashada, halka type B aad u baahan tahay in aad toos ula xiriirtid jaamacadda. sidee jaamacad ula xiriiraa? jaamacadaha China waa ay tiro badan yihiin, waa 583 jaamacadood. waxaa ugu caansan markaa googolada ka raadisid in jaamacadahan ay kusoo baxaan sida Tsinghua, Peking, Fudan, Zhejiang, Tongji iyo wixii la mid ah. waxa ugu habboon oo marka koowaad u baahan tahay waxay tahay inaad soo ogaatid jaamacadda aad rabtid iyo majorkeeda. China waxaa jaamacadaha ay caan ku yihiin inay qaataan magaca majorka ay caanka ku yihiin. tusaale waxaa arki doontaa Shanghai Medical University waxay caan ku tahay medical. waxaa arki doontaa Beijing Economic and Finance University waxay caan ku tahay economic and finance. waxaa arki doontaa tusaale Beijing University of Engineering waxay caan ku tahay engineering. marka koowaad inaad ogaatid majorkee aniga u baahanahay jaamacadeesa ku habboon. sidee ku ogaan karaa? laba si waa ku ogaan kartaa.
in excelkan oo kale tusaale aa ka fiiriso in excelkan aa ka fiiriso jaamacadaha ugu fiican oo agriculture ka bixiyo waa kana jaamacadda ugu horeyso waxaa lahaa China Agricultural University, Fujian Agriculture and Forest University. waa dareemi agriculture way raacsantaha sababtoo ah waxay caan ku tahay majorkaas agriculture-ka. dhinacan oo kale markaa fiirso artificial intelligence jaamacadaha ku fiican, biology jaamacadaha ku fiican iyo medicine-ka jaamacadaha ku fiican, chemistry-ga, business administration-ka and so on. kow waa inaa ogaataa jaamacadda adiga u baahan tahay. midda labaad waa inaa ogaataa jaamacaddan aniga u baahanahay majorkayga ma bixisaa. tusaale jaamacaddan aad doortay Tianjin University aad iska doortay, Tianjin maxaa bixisaa? majorka aan rabo civil engineering-ka ma bixisaa? haddii aad bixisid caan ma ku tahay? dowladda China waxay u qiimeysaa jaamacadaha kuraasta scholarship-ka la siinayo hadba rankiga ee tahay. jaamacadda kaalinta kuwaad ku jirto inta qofoodoo loo ogol yaho ajnabi ah inay qaadato lama mid aha jaamacadda kaalinta tobnaad ku jirto. jaamacadba jaamacadda ee ka sareyso major ahaan way ka nambar badan tahay, wayna ka fursad fiican tahay. tusaale markaa Tianjin University doorto waxaa u baahanahay inaa website-keeda tago anoo easy la ku qoraayo Google-ka Tianjin University. waxaa tegi doonaa qaybta international studentska, waxaa ogaan doonaa majorka civil engineering inay bixiso. waa tilaabada koowaad. tilaabada labaad, majorka civil engineering-ka luqadee ku bixisaa? muhiim iimaha inay engineering bixiso anigoo aan Chinese aqoonina la yiraahdo majorkaas af Chinese ku baxaa. laba waa inaa ogaadaa majorkaas inuu English ku baxo ama Chinese ku baxo. badanaa jaamacadaha waxay ku baxaan Chinese, waa jiraa qaar badan oo English ku baxo. su-aasha imaan doonta waxaa waaye Soomaaliya joogaayo English noocee liiga baahan yahay? shahaadada English haddii aadan heli karin IELTS iyo TOEFL waxaa u baahan tahay keliya inaad soo qaadatid MOI, medium instruction. waana waxaa la yiraahdaa waxaa ka heli kartaa jaamacadaada in ay cadeyso in majorkaagii baajka ku baratay luqadda Englishka. jaamacadaha Soomaaliya hadda dhammaantood waa wada bixiyaan. ardayda ugu badan oo China imaatana waxay ku imaataa medium of instruction. jaamacadaada xafiiska tag waxaad tirahdaa scholarship xareysan rabaa, waxaan u baahanahay medium of instruction. waxaan ku sii doontaa warqad yar oo u dhigmato in majorkaagii English uu ku baxay. jaamacadaha China badankoodna way aqbalaan. haddii jaamacadaada aysan aqbalin, jaamacadaha top rankiga inta badan dadka way ku adkeeyaan. waxaa samayn kartaa inaad hesho imtixaankan Duolingo English test. waa imtixaan online ah, 1 saac socon doono, keliya kaaga baahan $59, $70 system ku qoran laakiin $59 diskoona ardayda la siiyaa $11. waa imtixaan lagu diyaarin karo 3 isbuuc ilaa iyo bil. waa haddii preparation fiican u baahan tahay. haddii kalena waxaa u baahan tahay keliya inaad samaysid 3 try oo free ah. isku daygiisa waa free. Duolingo English test, Duolingo English test. waxaa isku day doonaa hadba all stepska u baahan tahay. waa kana Duolingo English test maxaa isoo bixi doona website-kan iska diiwaan geli. imtixaankiisa waa free. natiijada iskaaga baahan yahay waa 105 wixii ka sareeya. natiijada iskaaga baahan yahay waa 105 iyo wixii ka sareeya. so 110 ilaa 120 haddaa haystid qof safe aad tahay. waxaa sameysaa 3 test ilaa 4 test sameey. haddii testiyada aad ku wada baasto oo 110 wax ka badan aa keenta it means imtixaankaas diyaara u tahay inaad geshid. haddii aadan gelin no problem, hawalwelin. sidee marka ku horumarin karaa luqadeeda? keliya waxaad tagtaa YouTube-ka waxaana ku qortaa Teacher Luke. Teacher Luke Duolingo English test. macalinkan waa mid ka mid ah macallimiinta majorka u ah imtixaankan Duolingo English test ama coordinator-ka ka ah. wuxuu sameeyaa inuu kaa dhiso istaraatiijiyada imtixaanka ku gali lahayd, sida loo galo imtixaamadii, preparationkoodii, all waa free. wayna kugu filan tahay hadbo intii karaankaaga intii waqti aa geliso. okay, imtixaankii waa helay, natiijadii waa haystaa, Englishkaygii waa ii diyaarsan yahay, jaamacaddii waa haystaa. maxaa u baahanahay? second waxaa u baahan tahay inaad ogaatid jaamacaddan meeqa scholarship ay bixisaa. jaamacadaha scholarship-yada ay bixiyaan haddii aan dib ugu laabano waxaan dhahnay mid waa CSC scholarship, waa inaad soo martaa wasaaradda, waa CSC type A. laakiin CSC type B waxaa u baahan tahay keliya inaa adiga waxaaga dhamaystid adoo aadan u baahnin agents, uma baahnid wasaarad, uma baahnid dowlad, uma baahnid embassy. keliya waa adiga iyo shaqadaada. waxaad tegi doontaa marka website-kan CSC ay leedahay. website-kana waxaa ka samaysan doontaa account oo halkan waxay kusoo dhigaan systemka jaamacadaha iyo programyadooda iyo majoradooda.
then website-kan waxaa ka samaysataa account ka samayso. Website-ka markaa account ka samaysta halkan uu ku keeni doonaa. Kadib waxaa u baahan tahay keliya inaad informationkaagii buuxisid. Informationkii markaa buuxisid inaad jaamacadaadii soo dooratid. So waxaa u baahan tahay website-kan CSC-da inaad buuxisid adoo dooranaya CSC type B. kadibna aas jaamacadda buuxsid website-ka jaamacaddana waxay leedahay website. labadaas website u baahan tahay type B inaad buuxiyo. Okay. Then haddii aan u baahanahay scholarship kale ma heli karaa? Haa, waxaa ka mid ah scholarship-kan MOFCOM scholarship. Waa scholarship asna loo baahan yahay in dowladda ay soo marto. waxaana la siiyaa ardayda hadda dowladda u shaqeyso oo China waxay soo kordhisay sanadada dambe in MOFCOM scholarship-ka xoog ee saarto ardayda wadamada Afrika ka imaanaya welina la khibradaha dowladda u shaqeeyo tusaale wasaaradda arrimaha dibadda oo kale wasaaradda kalluumeysiga wasaaradda hebel ama khibrad 4 sano iyo ka badan leh inuu xareysan karo MOFCOM scholarship. waxaa kaloo jiro provincial scholarship ama magaalooyinka waxay leeyihiin scholarship tusaale Shanghai oo kale scholarship u gooniye leedahay, Beijing scholarship leedahay, Zhejiang scholarship leedahay, magaalo kasta waxay leedahay scholarship gooniye. fursadaasna waa ka faa'iideysan kartaa ayadana waa xareyn kartaa. waxaa kaloo jira scholarship la yiraahdo ANSO scholarship. scholarship-kan ANSO kaliya waxaa lagu xareystaa labadan jaamacadood. jaamacad koowaad waa USTC University of Science and Technology of China. jaamacadda labaad waa University of Chinese Academy of Science UCAS. labadaas jaamacadood waxaa loogu talagalay kaliya in lagu xareysto ANSO scholarship. ANSO-ga wuxuu xoogaa ugu duwan yahay maxaa la yiraahdaa CSC-da. ardayda PhD-ga qarash ahaan way ka qarash yar yihiin. oo CSC-da waxaa la qaataa lacag dhan 3,000 oo yuan. ardayda masterka ardayda bachelorka waxay qaataan 2,500 oo yuan. ardayda PhD-ga waxaa la siiyaa 3,500 oo yuan. dollar marka u bedelto 7 u qayb almost 400 dollar dhow 350 450. CSC type A iyo type B isku mid waaye. qofka type A hele kaliya wuxuu ku dheeryahay tigidhka wadanka imaashaha China marka uu imaanayo iyo marka uu qalin jabiyo oo uu wadanka u laabanayo in tigidh laga bixiyo. haddee tahay waxbarashada, haddee tahay lacagtaas billaho la qaadanayo, haddee tahay degnaanshaha, haddee tahay insurance-ga, haddee tahay requirement-ga maxaa la yiraahdaa opportunity-ga dhammaan waa isku wada mid. kaliya type A iyo type B waxay isdheer yihiin midna in tigidhka go iyo baaga laga bixiyo midna uu jeebkiisa iska bixiyo. midka type A-ga ee wasaaradda lasoo marayo wasaaradda waxaa kaa bixi doonto dowladda kaa bixi doonto oo maxaa la yiraahdaa dowladda China kaa bixi doonto CSC-da. haddii laakiin type B aad tahay waxaagana adiga xareystay adaa iska bixin doono. markaa China imaataana waa wada siman tihiin oo ardayga masterka wuxuu qaadan doonaa 3,000, bachelorka wuxuu qaadan doonaa 2,500, PhD-gana wuxuu qaadan doonaa 3,000. ANSO wuu ka duwan yahay oo PhD-ga waxaa la sii doonaa lacag dhan 7,000. so lacag ahaan way ka badan tahay laakiin halkaa waxaa ku talagelaysaa adina in requirement-ka adkaan doonto. majorada major dhif ay bixiyaan. waxaa isla fiirin doonaa hadhow qaybta dambe session-ka labadan jaamacadood majorada ay bixiyaan. then waxaa jira scholarship kaleeto oo la yiraahdo maxaa la yiraahdaa scholarship bangiyada ay bixiyaan oo u furan bank scholarship waxaa bixiya Bank of China. asna waxaa loogu talagalay ardayda PhD-ga ama postdoctor-ka. qeybahaas kale waxaa ka sheekeynayna oo dhan master, batch, PhD intaba way xaraan karaan. scholarship-ka ugu dambeeya China ay ka heli karto ardayda Soomaaliyeedna opportunity u noqon karo waa scholarship-kan Chinese language scholarship ama Confucius Institute scholarship. asiga laakiin caqabad yar jirto waxaa la iskaga baahan yahay in ardayga uu wato HSK3 ama HSK5 inuu wato HSK3 ama HSK5. HSK-ga waa level lagu qiimeeyo ardayda luqadooda Chinese inta level ay gaarsiisan tahay wuxuu ka bilowdaa levelka 1 ilaa levelka 6. so ardayda Soomaaliyeed Janiska inta badan uma furno laakiin haddii online ay ku diyaariyaan HSK3 oo kale Janiskaas way heli karaan. so then next scholarship-yada ayagoo mar labaad waa kuwana. then kaliya waxaa xasuusnaataa in fursadda ugu fiican ee tahay scholarship-ka CSC-ga. fursadda labaadna ay tahay maxaa la dhahaa magaalooyinka scholarship-yada ay bixiyaan tusaale China oo kaleete, Shanghai oo kaleete, Beijing oo kale, Zhejiang oo kale scholarship-yada waa bixiyaan laakiin isku qayb ma aha isku waxna ma bixiyaan. oo scholarship-yada qaar waxay noqon doonaan partial scholarship qaarna waxay noqon doonaan full scholarship. scholarship-yada qaar waxaa partial qaarna waxaa full scholarship. CSC-da oo kale waa full scholarship, MOFCOM waa full scholarship. university jaamacadaha laftirkooda scholarship-ya bixiyaan oo jaamacadda laftirkeeda scholarship ay leedahay la yiraahdo presidential scholarship. jaamacadaha qaar waa full jaamacadaha qaar waa partial.
gobollada sidoo kaleeto scholarship ay leeyihiin ayadana qaarkood waa full qaarkood waa partial Shanghai oo kaleeto waa full Beijing oo kale scholarshipkeeda waa partial Guangzhou oo kaleeto waa partial ANSO scholarship labada jaamacadood oo aan sheegnaa bixiyo ayadana waa full scholarship Bank scholarship Bank of China scholarship uu bixiyo PhD-ga iyo postdoctorka u furan ayadana waa mararka qaar partial laakiin inta badan waa full scholarship ugu dambeeya China ka heli kartidna waa Confucius Institute ayadana waa full scholarship so example qaadana waxaa doortay Central South University waxaana rabaa inaad CSC type B ama aan xareysto maxaa lahaa provincial scholarship jaamacadda markaa imaatid waxaa arki doontaa intaan waxa ugu horeeya oo qofku u baahan yahay waxay tahay inuu ogaado jaamacaddan inay u baahan tahay acceptance letter iyo in kale jaamacadaha China qaar waxay u baahan yihiin inta aadan jaamacadda soo xareenin inaad professor la xiriirtid researchkaaga iyo majorkaaga quseeyo kadibna uu professorka ku aqbalo hadhowna uu noqdo professorka researchka aad la sameyn doontid marka aad qalin jebinaysid thesiskaaga iyo difaacashadiisa iyo koorsar maxaa la yirahdaa koorsooyinkaaga doorashooyinkooda iyo waxaa dhan kaa saacidi doono jaamacadaha qaar waa qasab inaad marka haysatid acceptance letter jaamacadaha qaar waa optional oo waa haysan kartaa haddaadan haysanna dhib ma leh laakiin ardayga haystaa doorbideena jaamacadaha qaarna kaagama baahno oo ayagaa ku sii doono so jaamacaddaada waa inaad ogaataa inay kaaga baahan tahay acceptance letter iyo in kaleete sidee ku ogaan doonaa dhib ma leh hadda isla ogaan doonaa jaamacaddan oo kale waa ogaaday inay u baahan tahay maxaa la yirahdaa acceptance letter sidee ku heli doonaa keliya waxaad tagtaa school kadib waxaad doorataa iskuulka aad rabto tusaale aniga waxaa rabaa civil engineering school of civil engineering markaa fiiriyo halkan waxaa ku arki doontaa faculty meeshaan waxaa safan macallimiintii facultygaas joogay oo dhan inta macallin ama professor oo jaamacaddaas ay leedahay mid aa u geli doonaa profilkiisa markaa galaa fiirin doonaa tusaale professorkan oo kaleeta arkeen doctor shukhu professorkana fiiriyey researchkiisa waa jeclaaday waxaa siray malaha almost the same research aad tihiin kadib waxaa u dirtaa gmail u dir gmailka u diraysid waa inuu noqdaa gmail diyaarsan oo kooban professoradan Chinese-ka inta badan gmailada ma fiiriyaan mana akhriyaan haddii uu tiro badan yahay kaliya waxay rabaan gmail ay 3 daqiiqo ku fiiriyaan nuxurkoo dhanna ay helaan waxaa isku daydaa gmail profilkaaga oo dhan soo koobi kara diyaarsan waxa aragtidna u sheegi kartid inaad tahay arday raba inuu jaamacaddan apply gareey xilliga apply gareynaysid scholarshipka apply gareynaysid inaad tahay qof researchkiisa interesting ku ah professorada inta badan waxay jecel yihiin qof researchkooda wax ka fahansan inta aadan professorka u dirin waxaa isku daydaa in researchkiisa aad fiirsid waxa uu quseeyo kadib aad wax ka fahantid kadib aad tiraahdo researchkaaga aad u xiiseynaa then haddii ay jirto paper uu leeyahay oo akhrisa aad tiraahdo paper taasaa akhriye aadayna ii soo jiidatay then aad u dirtid CV study plan transcript saddexdaas kaa badan haddii transcriptigaagu aad u xoogan yahay bunta fiican aa haystid ugu dar haddii transcriptigaaga iska average uu yahay 80 ilaa iyo wax saas oo kaleetana iska wadid transcriptiga waa ka reeban kartaa laakiin CV-gaaga study plan-kaaga mar walba hala socdaan then haddii uu akhriyo waxaa laga yaabaa professorada qaar automatically inay inta ku qanacaan kadibna ay reply kuu soo galaan acceptance letterkana kuu soo diraan waraaqaas acceptance letterka wax badan ay kaa caawin doontaa haddii uu online interview ku balaamiyeyna waxaa isku daydaa in onlinekaas interviewga aad tagtid wuxuu kaa wareysan doonaa xoogaa asoo qiimeynayo luqadaada iyo waxaas no problem welwel ma jiro su-aalo fudud ku weydiin doonaa adoo waxba stress isku ridinaa macalinkaa la sheekaystid kadib aa u sheegtid majorkaaga iyo waxa ku dooratay majorkan iyo sidaa u jeceshahay inaa researchkiisa kula shaqaysid then wuxuu fiiri doonaa wixii aa ka fahamsan tahay researchkiisa inta badanna professorada China waa iska macallimiin oo friendly ah oo degan kind ah so waxaa laga yaabaa gmailkaaga inuusan akhrinaa daran mar hadduu gmailkaaga akhriyo probability uu helo way fiican tahay haddii waxaaga organized ay yihiin xilli horena u dirteed so maadaama September dhammaadkeeda uu bilaaban doono scholarshipyada bisha 10 ilaa bisha 11 ay bilaaban doonaa waxaa isku daydaa isla bishan 8 inaad dhowr macallin u dirteed sababtoo ah professorkan keliya uma tartamaysid oo ardayda caalamka joogto dhan usoo diri doonto 100 arday usoo dirto horto Pakistan arday kaleeto wadamo kale ka imaataa wax usoo diri doonto professor kastana way xadidan tahay inta arday oo uu qaadan karo ajnabi ah waxaa laga yaabaa professorkan in loo ogol yahay keliya 2 arday professorkan kale in loo ogol yahay 4 arday mid kale in loo ogol yahay 8 arday hadba waxay ku xiran tahay intii arday ajnabiga uu aqbalay iyo sida natiijadooda ay ahayd so jaamacadda laftirkeeda then waxaa laga yaabaa in numberka uu ka buuxsamo alisay si uusan kaaga buuxsamin waxaa isku daydaa xilli hore inaad u dirtid
inti professor oo u diri kartid inaad u dirtid so si probability-ga uu kugu bato. Okay. So professoradan oo dhan markaa fiirsid waa professorada jaamacadda ay leedahay waxay jaamacadaha jayna ku fiican yihiin numberka professorada aad u badan yihiin tusaale waxaa laga yaabaa jaamacaddeenoo kale taxda jaamacadda aniga hadda dhigto waxaa dhigato 50,000 oo arday numberkaas markii la sheegay number aad u weyn waaye 50,000 5,000 oo ka mid ah ajnabi ah 45,000 oo ardayna waa Chinese macallimiinta professorada oo ka shaqeeyana waa 7,000 civil engineering macallimiinta ka shaqeeyana waa 170 iyo xoogaa macallin so probability-ga aad ku heli kartid macallin probability fiican waaye laakiin hal mid iska ilaali khaladka ugu badan oo ardayda sameeyaan waxay tahay hal Gmail inuu soo qaado 100 macallin uu u diro macallin shaashadan taalo oo dhan 30 xaba inuu hal Gmail u wada diro taa waxay keenaysaa macallin kasta markuu warkaaga akhriyo inuu qiimeeyo waxaan inay general iska tahay ama iska tahay wax maalaa yacni ah isku day inaa macallin kasta Gmail-ka u diraysid uu noqdo mid asiga quseeyo mid research-kiisa quseeyo mid asiga aad toos ula hadlaysid so hadda waxaan u maleynaa markii hore waa lagu dhibanaa in ardayda maanta dhan ay bedelaan hadda laakiin way fududaha oo AI wax walba jiro in professorkan aad fiirisid researchkiisa hadduu ku qanado aad qaadatid kadibna aad Gmail fudud u qortid AI-gaas adoo isticmaalaya then aad Gmail-kaas u dirtid Gmail-ka u dirtay acceptance letter-kii waa heshay so waxaad tegaynaa then jaamacadda iyo scholarship-yada ay bixiso qaybtan internationalka markaa ku dhibatid jaamacad walba way leedahay international students markaa kusoo dhifatid waxaa arki doontaa scholarship-yada ay hayaan iyo admissionadooda so scholarship-yada ku dhufo tusaale jaamacaddan oo kale maxay scholarship haysaa waxay haysaa Chinese government scholarship-ka intaan waa type B Silk Road-kaas waa type B youth excellency-gan waa type B maxaa la dhahaa high level graduate-kan waa type B keliya kana type A ka ah midkana type A ka ah waana midka keliya loo baahan yahay inay wasaaradda waxbarashada soo martid safaaradda China ee Soomaaliya ku taalana ee dukumentiyada usoo dirta jaamacadda so taa markii laga tago intaan kale markaa ku dhufatid tusaale midkaan oo kale ugu caansan markaa ku dhufatid waxaa arki doontaa scholarship-kaas xilliga uu furmaayo xilliga uu ku eg yahay maxaa la yidhahdaa majorada ay bixinayaan programkooda haddaa waa taa soo sheegnay kow intaadan shaqadaba waqti iskaaga dhuminin juhdi iyo dadaal adoo geliyena majorkaaga aadan ka waanin waxaa isku daydaa in jaamacaddan aa fiirisid majorka aniga aa rabo ma heesaa ha luqadda aa rabo maku heesaayo ingiliisha ha dan jaamacaddaas waqti waa gelinaa haddii laakiin majorka aysan haynin waxba ha soo aadin hadda tusaale jaamacaddan oo kale markaa fiirisid majorkeeda waa wada yaalaa oo hadda halkan ka fiirno tusaale majorkan oo kale management science and engineering qofkii u baahan oo kale af Chinese ku bixsaa so haddaadan wadan HSK level 5 haddaadan wadan ma soo xareyn kartid qofka math oo kale rabo pure math u baahan Chinese iyo English waa lagu bixiyaa so wuu xareysan karaa statistics oo kale ama chemistry oo kale markaa fiirsid Chinese waa chemistry ma soo xareysan kartid jaamacad kale ka aadaysaa team chemistry majorkeyga waxaa waaye chemical engineering oo kale English Chinese way ku heesaa waa soo xareysan karaa so jaamacaddaba inaad iska ogaatid in majorkaaga English ay ku bixiso haddii English ku bixiso staybyada aa sheegnaa si fiican usoo martid haddii Chinese ay ku bixisana aad tirahdid okay jaamacaddan ka gudub jaamacad kale so majorkii way ku bixisaa English then waxaa fiirinaa waxa la iga baahan yahay requirement-iga waxa ugu muhiimsan oo arday laga rabo waxay tahay requirement-iga hal xabad hadduu kaa dhiman yahay waa ka lugaanaya boqolaal qof aa soo apply garaynaysa jaamacadda oo ku tir requirement-igan soo buuxiyey so Janice aa ku heshaa haddii requirement-iga aadan soo buuxinin waa 0% ma jirto jaamacadda hadda ansoo kaleeto tusaale waxaa soo xareyso sanad kasta 10,000 oo arday ardayda ay qaadatana waxaa waaye 3,000 oo arday ilaa 2,000 oo arday 7,000 oo arday ay ka laaba la dhihi doonaa ardaydaas ka laaba la dhahayo lama kala jeclo maxaa la dhahaa wadankooda saameyn kuma laha maxaa la yidhahdaa waxa ay wataan saameyn kuma laha keliya waxaa saameyn ku leh waxay tahay requirement-iga ardaygan laga rabo ma soo buuxiya ha requirement-iga markuu soo buuxiyo second waxaa xiga GPA-giisa ma sareeya ha third waxaa xiga experience hadduu leeyahay waxyaabahaas kula caawinta laakiin marka u horeysa waxay tahay requirement-iga inaad soo buuxisid haddii mid kamid ah kaa waayo waa ka lugeynay dukumentiyada liskaaga baahan yahay ardayda Soomaaliyeed inta badan ay wada heli karaan waxaa waaye passport oo qof walba hadda dibad uu soo aadayo waa khasab inuu haysto waxaa ku xigta shahaado iyo transcript shahaadada iyo transcript-igana waa in lasoo tasdiiqiyo oo wasaaradda arrimaha dibadda ee tasdiiq soo saarto then waxaa xiga waraaq CID-ya waraaqda CID-gana ha noqoto 3 bilood u dambeysay jaamacadaha inta badan waxay dhahaan ilaa 6 bilood u dambeysay laakiin intii processka lagu kala jiro oo xareysashada waxa laga yaabaa in uu expired ka noqdo so 3 bilood ugu dambeysay waxaa xiga waraaq caafimaad
waraaqada caafimaadka waa waraaq caafimaad oo China ay leedahay sambalkeeda idin tusi doonaa waraaqadeeda waraaqdana lagaaga baahan yahay form PDF keeda waa helaysaa oo jaamacad walba way taalaa groupkana waa kusoo diri doonaa insha Allah then waraaqdana u baahan tahay inaad soo bixisid caafimaad kasto ma aha kaliya inaad iska tagtid caafimaad u baahan iska soo qaatid kama qaadanayaan waxay rabaan formkan in loo soo buuxiyo waa form 2 page waxaa kasoo buuxsan kartaa isbitaalada Soomaaliya dhamaantood waa ka wada helin kartaa ani xilligayga waxaa kasoo buuxsaday Soomaali Sudanes any isbitaal oo kuu buuxin karo inaad baashan kasoo buuxsatid shaabada ay kugu soo dhuftaan then x-ray ga kasoo qaadatid isku soo dhejisid waraaqda ani x-ray ga isku socotaa kaaga filan waraaqda caafimaadka then sawir waa la yaqaanaa then study plan-kaaga inaad soo diyaarstid study plan-kaaga ha ka koobnaad dhib ma laha inuu yahay personal maxaa la motivation letter inuu yahay personal statement inuu yahay maxaa la study plan all same way kaliya wuxuu kala duwan yahay tahay hadba meeshuu xooga saaray mid wuxuu xooga saaraa taariikhdaadii hore mid wuxuu xooga saaraa haddeertaan iyo waxa aad soo bartay mid wuxuu xooga saaraa mustaqbalka iyo waxa aad bari doontid iyo waxaas waxay ku qaban doonaan iyo waxa ku qaban doontid all same way kaliya waxaa lagaga baahan yahay inuu 3 waxyaabood ka koobnaado maxaan aniga ahay oo taariikhdeedii hore magacayga iyo wadankayga waxa soo bartay majorkayga wuxuu ahaa xilligan hadda la joogo iyo waxa xareer rabtid waxa xareer rabaa majorka ana xareer rabaa oo master jaamacadana ka xareer rabaa waxaan xareer rabaa waxa rabaa xasi waxas inaa barto then future-ka waxaan aa bartay maxaa ka damacsantahay way usoo dooratay way China usoo dooratay way jaamacadina usoo dooratay way majorkan usoo dooratay markaa dhamaysid maxaa qorsho leedahay wadankaaga iyo dadkaaga maxaa ugu qaban kartaa study plan so ayadana sample wasal fiiri doonaa then waxaa xiga recommendation letter inaad soo qaadatid recommendation letterka problem badan ardayda Soomaaliyeed ka haysto oo jaamacadaha China khasab waxa ay markaa master soo xareynaysid baajna ahayd in aad ka keensato professor inaad ka keensato ama associate professor ama associate professor jaamacada Soomaaliya marka tagtid qaybta u hooseysa waxaa ku qoran master Cali master Maxamed master Geedi lecturer Cali lecturer Faarax inta badan way adkeeyaan khasab waxa personal statement-gaaga inuu ku qoran yahay professor Maxamuud Geedi professor Cabdi Faarax professor Maxamed professor hadaa waasid associate professor Chinese way sorry associate professor inuu ku qornaado professor ama associate professor macalinkaaga la hadal haddii suurta galayso in professor associate professor jaamacadda ay kugu qori karaan ama inaad raadisid qof professor ama associate professor kadibna aad kusoo qortid waraaqdaas professor ama associate professor kadibna aad soo diyaarstid waxaa xigo CV-gaaga in template isticmaali kartaa template kugu fiican oo kugu qurxoon is leedahay waxaaga dhan ku soo koobi doonaa soo qaado waxaa isticmaali kartaa Canvas CV-gaaga waa ku diyaarsan kartaa CV iska macquul oo iska diyaarsan khasab maaha CV-ga perfect inuu noqdo soo 100 template jirto khasab maaha qof kale CV-giisa inaad koobiyeysid CV yara iska samaysan kartaa 2 page oo adiga aad leedahay waxaaga dhan kugu kooban yihiin CV-gaas waa kaa badan yahay waxaa xiga research letter haddii aad tahay qof research wax kasoo sameeyey ama beebara soo daawacay ama research uu sameynayo proposalkiisa wixiisa u diyaarsan yahay balaan fiican ku imaanayo haddii kale no problem waa ka boodi kartaa uma baahni then qaybta xigta waxaa waaye English certificate waa sheegnay haddii aad heli kartid IELTS iyo TOEFL khatar waaye okay waaye haddii aadan heli karin oo Soomaaliya aad joogto oo ku dhiban tahay no problem Duolingo English test geli kartaa Duolingo English test 1 saac natiijadana waxaa 1 saac imtixaanka socon doonaa IELTS TOEFL aad u fudan yahay natiijadana waxaa ku heli doontaa 24 saacadood ilaa 48 saacadood so simply inta maraa jabtidana geli kartaa waa gashay 105 iyo wax ka badan iska rabay 104 keentay 100 keentay 90 keentay waa ku ceshan kartaa hadba intii natiijada aad rabtid aad ka helaysid 105 wixii ka badan saafay haddii inta dhib kugu noqoto imtixaankaas iyo diyaarintiisa ama qarashkiisa ama waqtiga uu ku saamix waayo jaamacadaada ka soo qaado medium of instruction warqad cadeynaysa in majorkaagii uu ahaa af English inaa ku baratay majorkaaga sorry inaa medicine ahayd laakiin af English xiisadaha lagu qaatay imtixaanka af English lagu galayay buugta af English ay ahaayeen then experience letter haddii aad shaqaysay inaa waraaq experience letter soo qaadatid intaa waxaa kuu dheer inaa soo qaadatid supporting document waxyaabo ku caawin kara tusaale seminaaro aad ka qayb gashay shahaadooyin aad ka heshay Coursera shahaadooyin kale aad ka heshay Udemy seminaaro aad gashay abaalmarino aad ku guuleysatay
waxyaabaha activity-ga aaday jaamacadaha China u xiiseeyaan tusaale jaamacadaada inta lagu guda jiro oo kale waxaa ku guuleystay tartan sportska abaalmarinta lagu siiyey banooniga gool dhalintii qaatay oradaa khatar ku ahayd tartan public speaking laga qayb galaya khatar ku ahayd waa qaatay waxyaabahaas waxay aad u saacidayaan ardayda sababtoo ah jaamacadaha China waxay fiiriyaan inay isku dheelitiraan ardaygan waxbarashadiisa iyo activity-giisa si waxbarashada inta uu wada bes uusan depression iyo stress ugu qaadin si uu u noqdo qof firfircoon qayb walbana geli karo maxaa la yirahdaa noloshiisa qaybna farxad ay leedahay qaybna waxbarasho ay leedahay wixii isku jamcin karo so activity-yadaas iyo sports-yadaas iyo abaalmarin haddaa ka haystid super haddaadan ka haysan no problem laakiin mar walbo plus points waay dukumentiyada soo diyaarsaday wixii oo dhan soo diyaarsaday then waxaa u baahanahay website-ka jaamacadda inaa imaado website-ka jaamacadda tusaale hadda jaamacadda ama jaamacadeeda oo kale website-yada jaamacadaha saan oo kale u samaysan yihiin oo waxaa kasoo heli kartaa inta aan markaas soo dhamaystid wixii dhan macallimiintii usoo dirsatay halkaana aad joogtid oo requirement-yadii aa akhrisay xilliga uu furmaayo xilliga uu bilaabmaayo CSC website-keeda waa kana meesha laga apply gareeyo halkan way ku qoran tahay haddaad dib loo akhrisid waa kana CSC online application website-kan wuxuu ku geyn doonaa website-kii haddaa aad joognay oo jaamacadda laga soo apply gareeyo scholarship-ka dowladda CSC-da halkan ku keeni doonaa then waxaa xigo taa markaa soo dhamaysid inaad ku apply gareysid systemka jaamacadda systemka jaamacadda waa kana ayadana markaa soo dhamaysid CSC-daada inaad waraaqdaada kala soo degtid kadibna aa imaatid systemka jaamacadda ayadana iska diiwaan gelisid kadibna waa kana almost jaamacadaha badankooda saanu systemkeedu u samaysan yahay inaad iska diiwaan gelisid user iyo password ka samaystid then halkaan uu ku keeni doonaa halkaan markuu ku keeno inaad scholarship-ka xariisashadiisa aad bilaawdid jaamacadda hadda waxba uma furno oo xilligii waa la dhaafay sababtoo ah deadline-kooda way soo dhaafeen laakiin markii deadline-keedu ay furantahay waxaa halkaan ku arki doontaa CSC type A CSC type B Shanghai government inta scholarship jaamacaddaas ay leedahay adoo markii horeba si fiican usoo akhriyay jaamacaddan scholarship-yada ay leedahayna kusoo talagalay then waxaa bilaabi doontaa processkaagii majorkaagii dooro majorkaaga meeshaan filter waxaa ka dhigi kartaa majorada waxaad dooran kartaa English inta major English haddii Chinese uu yahay meeshaan kusoo qor doonaa language of instruction luqadda lagu baran doono majorkaas then English markuu noqdo oo adiga hore usoo hubiyey markaan macallin ka wato then waxaa bilaabaysaa in sawirkaagii aad soo gelisid formkii aad buuxisid wixii oo dhan aad dhamaysid then aad submit dhahdid markaa submit dhahdid waxay sameyn doonaan jaamacadaha badankood interview leeyihiin qaar badan oo kalena interview ma lahan waxaad keliya u baahan tahay in mar walba aad ka warhaysid jaamacadaada gmailka ay kusoo dir doonto sababtoo ah jaamacadaha waxay sameeyaan markii 3 isbuuc ama 4 isbuuc laga joogo xilliga xareyntaada waxaa lagu soo diri doonaa gmailkaas oo interview ah so inta interview la gaarin waa inaad reply u gashaa 24 saac gudahood waa inaad gmail ka gashaa tiraahdaa interviewgaas waa imaan doonaa waa soo xadir doonaa submit kabacdi maalinta interviewga la gaaro interviewgaas aa xadirtid interview aa gashid then interviewga markii la galay kadib processka socdo doono requirement-yadii waxay fiiri doonaan document-yada jeegareyn doonaan final admission-ka markii la gaaro mar labaad waxaa lagu soo diri doonaa gmail confirmation oo ina jaamacaddaas aqbashay sababtoo ah ardayda soo apply gareysa aad u badan yihiin halkii boos soo baxa qof kale looga faa'iideynaa then haddii aad gmailkaas on time uga jawaabi waysid adoo processkii soo dhameeyey bishii 11aad shaqadii soo bilaabay haddana la marayo bishii 3aad jawaabtii suganayo dhabar u dhacay gmailkii aa inkirto aad ka jawaabi waasay booskaaga waa lagaa bixinaa maxamuudow feelka ku jiro markii hore jaamacadda aysan jawaab u dirin oo waiting listiga ahaa jawaabta loo diri doonaa asaga markuu dhaawaa diyaarsan ahaan automatic loo sii doonaa sababtoo ah gmailka waa ka jawaabi waasay mar walba waxaa qasaba jaamacadda haddaa xariistid inaad gmailka ka warhaysid website-ka jaamacaddana aad ka warhaysid website-ka jaamacaddu isbedel doonaa markuu horeyso aad samaysid wuxuu noqon doonaa fill in kabacdi in processing ku xogo kabacdi waiting for academic review ku xogo step kastoo la maraayo macnuu u taagan yahay step hore markaa submit dhahdid then waxaa ku xogo waxaagii waa submit gareysay waay in processing la doonaa documentada waxaa loo geey doonaa xafiiska international student office-ka waxay fiiri doonaan kaliya documentada 12 xabo laga rabay inaad soo dhameystirtay uu soo dhameystiray then waxay dhihi doonaan waiting for academic review stage kaas isku bedeli doonaa documentada la qaada waxaa loo keenaa college-ka apply gareysay tusaale civil engineering ama medicine ama chemical engineering macallimiintaasaa fiiri doono documentyadana inay u qalmaan waxay fiiri doonaan resultyadaada maadooyinka aad soo qaadatay researchkaaga
maxaa la yirahdaa taariikhdaada academic plankaaga study planka waxyaabaa aa qortay shahaadooyinka aa wadatid dan ardayda dhan markii la wada fiiriyo intii la isdhaho ardayda ugu fiican waaye waxaa loo gudbi doonaa stageka xigo interviewga ah gmaila la soo diri doonaa interviewa intii halkaas ku dhacday rejectia lasoo dhihi doonaa so jaamacadda ina mar hore xareyso waxay kaa saacidaya xitaa haddii jaamacadaha reject kusoo dhahdo weli inaa waqti haysatid jaamacad labaad iyo mid saddexaad iyo mid afraad aa ku apply gareyn kartid laakiin ninkii last timeka apply gareeyo ma heli doono xilliga reject lasoo dhaha in jaamacad kaloo furan uu ku bedesho ma heli doono so marka jaamacadda ada la furo quyoob xarey si istabidaas aa usoo gubtid haddii interviewga markaa martid kabacdi dokumentiyadaada waa la qaadi doonaa marar qaar waxaa dhacdo jaamacadda requirementigeeda adoo buuxiyey oo eeg ku aqbashay oo jaamacaddan eeg ku tiray waa ku aqbalnay admissionkaagii waa kana scholarshipkii inaadan helin tusaale sababtana waxay tahay jaamacadda markii ardayda fiiriso 500 arday soo xareystay way kala shaandheysay 200 arday qaadatay 200 ka mid tahay jaamacaddii requirementigeeda way kasoo buuxsameen waxaa la qaadi doonaa faylashiina waxaa loo diri doonaa qaybta scholarshipka oo dowladda China waxay fiirin doontaa 200 qofood waxaa la fiirin doonaa jaamacaddan kuraasta loogu talagalay meeqa waay sanadkan waxaa loogu talagalay 120 qofood soo 80 dheeriya 80 qofood waa inay la laabataa marar qaar waxaa la dhihi doonaa waxaa loogu talagalay 180 qofood 20 qofood waa inay iska celisaa marar qaar waxaa la dhihi doonaa 100 qofood oo loogu talagalay 100 kale kusoo darsatay 100 ugu fiican anaga qaadanayna 100 kale jaamacadda ayada u taalaha isxaliso jaamacadda marka kula soo hadli doonto ku dhihi doonto scholarshipkaas waa waasay scholarship kale ma kugu bedelnaa haddii markaas uu furan yahay waqtigeedana la joogo then waa dhigi kartaa scholarship kale igu bedel haddii scholarship uusan furnayna waxay ku dhihi doontaa haye lacagtaada ma ku imaanaysaa oo waxbarashadaada iyo deegaankaaga iyo insuransiga wax dhan iska qaabili kartaa haddii ay ahaa tahay weliba kuu furantaa jaamacad inaa imaatid haddaa may tiraahdid then waxay ku dhihi doonaan okay see you next year haddana haddii kow shaqada soo bilaabi doontaa arday badanoo waxaa jirto asxaab aan ahay sanadkii koowaad apply gareeyey aanan helin kii labaad apply gareeyey aanan helin kii saddexaad helay arday fiicanna way jirto sanadkii koowaad oo soo apply gareeyeen helay kaliya waxaa la isdheerayaa waxay tahay niyahow dokumentiyadaan ma ku diyaarsan yihiin requirementiga jaamacaddan ma soo buuxisay jaamacaddii saxda ahayd ma dooratay oo haddaa waxaa dhahna jaamacad walbo majorka ee caan ku tahay kuraasta loo badi doonaa tusaale jaamacadaa tagtay la yiraahdo Shanghai Medical University majorkaygana waa civil engineering probability jaamacaddaas aa ku heli karo very low waay sababtoo ah haddee 100 arday qaadato 80 ka mid ah waxay sii doontaa ardayda medicine-ka sababtoo jaamacaddan waxay caan ku tahay medicine jaamacad kale joogto waxay caan ku tahay computer science ardayda ugu badan oo qaadanaysa waa computer 100 haddii qaadato waxaa laga yaabaa 70 80 60 50 ka badan inay tahay majorkaas ay caan ku tahay so jaamacadba jaamacaddii majorkeeda uga dhowdahay way uga fursad fiican tahay adoo medicine markaa jaamacad engineering caan ku aado probability-ga aa ku heli doonto aad u yaray xataa haddii majorkaas ay heeso af ingiriisna oo ku heeso waxaa kaaga habboon jaamacadaha medicine kale inaa aadid so tusaale waxaa dhahdaa Google marka hada ku qortid waa heli doontaa jaamacada ugu fiican medicine waa kan Fudan University Shanghai Jiatong Peking Direct jaamacadahan adoo apply gareyn karo marka jaamacad kale to engineering caan ku ah soo aadid almost waa soo khalada way meeshan lagu tala gelin waay probability-ga aad iskaga yaray so waxyaabaha ugu muhiimsan waa inta kaliya waxa u baahan tahay scholarship-ka apply gareynaysa inaad ogaatid waxaana ardayda inta badan kula talinaa CSC type B CSC type B ama ANSO scholarship CSC type B scholarship CSC type B scholarship ama ANSO scholarship oo laba jaamacadood bas bixiso majorkaaga haddii aa heli kartid scholarshipkaas asna aad u fiican yahay haddii intaas aa waasid magaalada aad dalbanaysid inaad fiirisid markaa jaamacadda xulinaysidna aa ku xudartid jaamacaddan meesha ay ku taalo keliya inaadan fiirin oo aa fiirisid maxaa la yidhahdaa jaamacaddan rankigeeda waxa ay ku fiican tahay majorka aa rabo ma ka heli karaa maxaa la yidhahdaa arday badan ma qaataa oo waxaa arkaysaa jaamacadaha way soo qoran inta badan ardayda ay qaataan oo ajnabiga tusaale markaa aragtid jaamacadda ajaanibteeda uu 1,000 arday yahay jaamacadda ajaanibteeda 4,000 5,000 arday ay yihiin almost probability-gaas way kala duwan yihiin aydan inahaas inaad fiirisid professoriyada kaleete ama maxaa la citiyada kale scholarship-yada bixin waxaa kamid ah Zhejiang
magaalada Zhejiang scholarship gooni ay leedahay, Jiangsu scholarship gooni ay leedahay, Shanghai oo magaalada hadda aad joogo full scholarship ay leedahay. jaamacada 27 jaamacad oo ku taalo 27 jaamacad soo fiirin kartaa jaamacada majorkaaga heeso waas leedahay hadba jaamacada way anfacaysa inaad apply gareyso. Then Beijing oo kale scholarship ay leedahay laakiin waa partial scholarship, waa half scholarship dhammaystiran maaha. Then waxaa ka hadalnay stipend oo kale waa sheegnay ardayda bachelorka inay qaataan 2,500, ardayda masterka ay qaataan 3,000, ardayda PhD-ga ay qaataan 3,500. hadba qarashka muhiim maahan, almost jaamacadaha isku mid waaye, keliya waxaa muhiim jaamacadan inay heli kartiin in kaleeta jaamacadaada ku dooro inay tahay jaamacad majorkaaga quseyso, jaamacad admissionkeeda aad kasoo bixi kartid, jaamacad requirementigeedii marka hore aad soo fiirsatay, jaamacadaas leedahay jaamacadan ay leedahay jaamacad ugu habbooneed waaye. all detailkeeda website-ka soo dhigayaan bit by bit ina u akhrisid, tartiib u fiirisid, xilliga deadline-kana aad ku ilaalisid oo jaamacad walba deadline-keeda inaad iska fiirisid. tusaale jaamacadana kale deadline-keeda markaa fiirisid xilliga ugu dambeeya oo la xareysan kara waa February 25-keeda. goormuu furmay? November uu furmay. inaa February waa kana xilliga ay soo dhigeen waa October ay soo dhigeen almost. then inaa February la sugo waxaa iga habboon oo iga jaanis fiican inaa isla markiiba xareeyo inta aanan xareynin in dokumentiyada marka horeba ii diyaarsan yihiin oo dokumentiyadana ii diyaarsan aan marka hore soo shaqo tago. then scholarshipkeedii majorkeedii waxay hayaan iska fiiriyo tartiib u akhriyo waa kana hadeertaan jaamacadan oo kale iska fiiriyo certificate-ku kale inta badan kugu adkeenayaan oo language-ka waxay u baahan yihiin qofka inuu IELTS haysto ama TOEFL uu haysto. then ma ka wareejin karaan qofka waa kan applicant hadduu soo qaato qofkan majorkiisa hadduu af Ingiriis kusoo qaatay IELTS iyo TOEFL waa laga wareejinaa. jaamacadaha badankooda way leeyihiin iska fiiri. haddii qaybtan aysan lahayn oo aysan dhehaynin qofkii majorkiisa af Ingiriis kusoo qaatay kama wareejinin, haddaysan ku dhihin ha isku lugoonin IELTS iyo TOEFL-na aadan haysan jaamacad kale iska raadso. haddii ay dhahaan okay waa ogolnahay medium instruction-ka then waa soo apply gareyn kartaa. then xagee ka apply gareynaa? jaamacad website-keeda waa kana website-ka jaamacad inaad ka apply gareysid. maxaa kaloo u baahnaa inaad apply gareey scholarshipka CSC type B halkaan uga baahantay inaad ka apply gareysid. agency numberka CSC type B markaa geli doontad halkaan ku yaalaa. all bit by bit jaamacad walba saana u sharaxi doontaa. weli jaamacadaha qaar waxaa u dheeriyaa in study plan-ka ee sample ku siiyaan. study plan-kaaga adaa iska soo diyaarsan karo. jaamacadaha qaar waxay kugu qasbi doonaan sample-kooda inaad raacdid. no problem, sample-kooda qaadan doontaa format yar oo ay leeyihiin waaye. format-kooda u dhex dhigi doontaa wixii adiga markaas aa wadatay. then acceptance letter had jaamacadan oo kale mandatory waaye, waajib waaye. mandatory haddii ku dhahdo it means jaamacadan acceptance letter la-aan lagama yeelahay. application fee ay leedahay jaamacadaha qaar application fee ma lahan. intaa waxaas dhan la gaarin ba waxaa qasaba ama macalin wadataa maya jaamacadan ma helaysid. hadday yidhahdaan acceptance letterka waa optional, qofkii wata waa okay, qofkii amadan waa okay, waa xareyn kartaa jaamacadan adoo waxuu professor raadin. jaamacadaha qaar waxay ku dhihi doonaan acceptance letterka ma rabna annagaa professor ku siineyno. jaamacadaas marka uma baahnid inaad professorada la xiriirtid automatic jaamacad u xareyn doontaa. then waxa ugu dambeeya waxay tahay waa kana jaamacaddii waa submit gareysay. then academic review-gii, pre-admission-kii, final result-gii goormee jawaabaha soo baxaan. aniga November bilaabo jaamacadan inaa xareeyo waa sugayay bisha 12aad, bisha 1aad, 2aad, 3aad wixii dhan soo dhameeyeen. goormee admission-kii la iisoo diri doonaa? bisha 5aad inta badan. bisha 4aad jaamacadaha soo hormariyo laakiin bisha 5aad, bisha 6aad ilaa bisha 7aad ay heli doontaa admission-kaagii iyo GW form ay kusoo diri doonaan waraaq fiisa lagu apply gareysto. markii jaamacadaas ay hesho waxaa u baahan tahay in fiisahaagii Djibouti u doonatid. safaaradda China ee hadda Soomaaliya ku taala Muqdisho ma shaqeyso, airport ku taala laakiin xafiiskeeda ma shaqeeyo. waxaa u baahan tahay Djibouti inaad tagtid oo appointment aad ka qabsatid, kadibna maxaa la yidhahdaa CV-ga halkaas ka soo qaadatid, then aad China imaatid. haddii wax problema ay jiraan oo jaamacadahan oo kale u baahan tahay nambaradooda wici kartaa. waxaa la hadli kartaa Gmail-kooda. su-aalahaaga haddii su-aalo qaab qurxoon u qortid oo nidaamsan u qortid automatically way kaaga soo jawaabi doonaan. oo jaamacad walba waxay leedahay professor u qaabilsan, macallimiin iyo arday u qaabilsan oo ardayda caawiyo, hago, su-aalahooda uga jawaabo, cilada markay ka imaadaan ka caawiyo. then almost waxaan u maleynayaa in intaan kusoo gabagabeyn karo jaamacaddii iyo requirement-yadeedii waxaabay u baahan yihiin. oo halkan waa ka heli kartaa waa kan acceptance letterkoodii, physical examination recordkii, waraaqda caafimaadka hadda aan sheegaynay. waraaqdan oo kale inaad soo degsatid kadibna aad soo buuxisid. waraaqda hadda way maran tahay laakiin inaad soo buuxisid. then maxaa la yidhahdaa personal statement-iga ay kaa rabaan aad fiirisid, jawaabtaadana aad sugatid. jaamacado badan ma apply gareyn karaa? 2 ilaa 3 ilaa 4 jaamacadood waa apply gareyn kartaa.
jaamacaddii kusoo baxdo hadhow dooqa adaa leh waa aadi kartaa then wixii markaan su-aala u wareegaynaa insha allah waqtigoo yar aawadeed waxaa isku dayaa in halkaas aan kusoo ekeeyo then wixii su-aalo a qabtaan insha allah waxaa isku dayi doonaa inaan ka jawaabo qofkii u baahan ayadoo faahfaahsan oo step by step loo raacay laba mid uu samayn karaa in uu halkan ka raadiyo jaamacadda uu rabo youtube-ka inuu tago just let me go to YouTube then waxaa dhahaa Saleh Center ama jaamacadan Tongji University Tongji University waxa la iskaga dhaqo application automatically waxaa heli doontaa haddaa luqad ingiriis fahmaysid dad si fiican u sharaxaya bit by bit sida loo xareysto hadda ninkan oo kaleeta CSE Guard official waa nin Pakistana inkastoo afurdu uu ku hadlaa istaabada haddaa fiirsa si fiican u raaci kartaa jaamacadda sida loo xareysto maxaa la yidhahdaa professorada sida loo xiriiro xilligan xareysto dhammaan si fiican u sharixi doonaa haddii luqadaas ingiriiska ama urduga aadan isku fiicneen maxaa la yidhahdaa YouTube aa samaystay inkastoo aan hadda wax soo dhigin YouTube-kana hadda waxaa qorsheynaa in istaabiyada bit by bit sidee CV u diyaarsan karaa sidee macallimiinta ula xiriiri karaa sidee maxaa la yidhahdaa study plankeyga u qurxisadaa dhammaan bit by bit waxaa soo dhigi doonaa YouTube-kan ayadoo Soomaaliya waxaan isku dayi doonaa inaan ka gaarsiiyo xilliga uu furan yahay scholarship-yada si arday walba uu maxaa la yidhahdaa uga faa'iidaysto CV-gas u diyaarsan lahaa jaamacadda uu rabo siduu ku dooran lahaa macallinkii siduu jimiilada ula xiriiri lahaa ayadoo Soomaali lagu sharaxayo jaamacaddii inaad tagno kabacdi isla buuxino foomkeedii CSE-da aad tagno foomkeedii isla buuxino waxa lagu qori lahaa meelaha qaar oo kaleeta ardayda waxay ku dhiban yihiin postal code number Soomaaliya ma lahan adresska oo kaleeta adres fuula ma lihin sida loo qori lahaa magacoo kaleeta surname iyo given name sida loo qori lahaa jaamacaddana way kuu sheegaysaa haddii inta aad ku fahmi waysidne ayadoo video insha allah YouTube-kaas soo dhigi doonaa halkaas sidoo kale waa ka daawan kartaa wax kaloo aan ku dari doono then faylkan waa soo diri doonaa qofkii rabo halkaas uu gruupka kusoo diri doonaa insha allah tiktorka usoo diri doonaa tiktor cabdinaasir isaga la soo wadaagi doono linkiyada jaamacadaha iyo professoradooda kutub waa soo raacin doonaa then waxaan rajeynaynaa qof walbo oo maanta halkan xaadir ku ah inuu ka faa'iidaysto scholarship-kaas jain scholarship-keeda number aad u weyn waaye waa mid ka mid ah scholarship-yada hadda ugu badan caalamka ardayda Soomaaliyeed waxay ku jirtaa waddanka labaad ay ugu raadinta badan yihiin ardayda Soomaaliyeed inta badan waxay raadiyaan Italy iyo sidoo kale waxay raadiyaan maxaa la yidhahdaa China waa kaas ku soo dhawaan kartaa insha allah wixii su'aale ah markaan u wareegaynaa sida axmed waxaan aad mahadsan yahay injineer cabdinuur xuseen maxamed aad u mahadsan tahay injineer sida quruxda badan aad nooga qabtirtay waxa weeye fieldigaasi insha allah waxaan u guda gelaynaa su-aalaha ay asxaabtu ay qabto intaana su-aalaha aan u guda gelin insha allah marka uu dhammaado su-aalaha waxaa qaadi doonaa attendance-iga si mataqaanaa ardayda mataqaanaa kasoo qayb gashay training-kan ay u helaan certificate-ka marka waxaan u guda gelayaa marka insha allah resource-ga iyo dhammaan waxa waaye waa dila soo wadaagi doona haddii ilaha idinka dhigo waxaan u guda gelaynaa su-aalaheena marka waxaan soo qabanaynaa qof haddii ilaha idinka dhigo saddex kastoo qof kasta marka su-aal waxa weeye ay baan waxa u gudbin doonaa injineerka kabacdi markaas baa mataqaana sida saddex qof uga jawaabi doona haddii ilaha idinka dhigo marka qofkii diyaara gacanta taagi doona insha allah markaas soo qaban doona haddii ilaha idinka dhigo waxaa ugu horeeya ninka la dhaho cabdullaahi cabdikaadir baa ugu horeeya cabdullaahi haddaa uu gacanta taagtay cabdullaahi gacanta dejiga ku dheh cabdiqaadir السلام عليكم وعليكم السلام dhammaantiin tiimka dictoorka maamulaha injineer cabdinuur sidoo kale injineer aad baa u mahadsantahay marka hore xogtaana la wadaagtay ahaantii anigu waxaa ku jira ardadii horey u raadi jirtay xogta China horey xogtan aan caawa hore uma helin injineer marka hore waa mahadsantahay injineer haddaa u gudbo marka labaad nuxurkayga u socdo ama su-aashayda waxa weeyaan injineer waxaa ka mid ah ardada haysatay scholarship-yadan hadda aad sharaxday mid ka mid ah gaar ahaan scholarship-ka la dhaho MOFCOM type A marka injineer wax badan waa fahamsanahay kaliya waxaan ku weydiin lahaa
statuskayga ayaa wuxuu yahay xilligan in process. Marka maxay ka micno tahay in process? Sidoo kale maxay tahay xilligan goobta loo eego scholarshipkaas percentage-ka ku guuleysan karo scholarshipka? Aad baa u mahadsantahay engineer iyo tiimka dhammaantiin. waa gartay yaa kale wax xasuusin lahayn asxaabta in mataqaanaa waqtiga oo yar awgiis in qof kasta magaciisa iyo meesha joogo su-aasha uu hore u gala insha allah hadii laadka dhigo waxaa kale oo qofka labaad soo qabanayno cimraan yuusuf. أستاذي واكو سلامي واكو سلامي أستاذي مقعي وعمران waxaa jooga Ethiopia reer dowladyahanka ahay soo marka ustaad waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma apply gareyn karaa ilaa dhowr jaamacadood ilaa kaliya 5 10 20 waxaan rabaa just inaan fursadda ka helo 20 haddaan buuxin waxaan isleeyahay hal iyo labo kama weynaysid soo marka ilaa intaa leg ma buuxin karaa haddii aqbalaan ma isla waldi karaa dhammaantood ilaa dhammaadka labo ka mid ama saddex ka mid haddaan helo ilaa dhammaadka ma wadi karaa adaa maasantoo ka baxa okay waxaan ku xijinayaa maxamuud cabdullaahi faarax. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ومحمود وحكيت سنة هاي بهذا السنة. طبعا أستاذ كادو ما سيهي واحد ربي سؤال أنا سوكوبية أستاذي طبعا تشيبيجا كورن مليو حركة تشيبيجا وفي عن مركب قدر ربنا نشاهد عن حريصانية تشيبيجا اللي يربو نور مركب تبون أقرأ وكبح. اوكي سؤال كواد عبد القادر موفق سكولرشيب نيها وموفق سكولرشيب جامعة بدن هذا يسوي جوابين وجامعة هذا waxa laga yaabaa inaysan interview lahayn jaamacada qaar waxay lahayn interview in processing waa documentadaadii check-gareena ku socoto waay so waxa laga yaabaa automatically inay accepted isku bedesho ama jawaab ku soo diraan rejected soo dhahan jaamacadaha hadeertaan mofcoma mar hore jawaabaha direen oo safaaradda China Soomaaliya waa loo diray ardaydana sidoo kale gmailkoodii waa loo diray intooda badan so haddii aadan weli helin waxaa laga yaabaa inay soo diri doonaan oo weli hadda inta badan soo diraan laakiin waxa ugu dambeeso jawaab aad ka sii kartaa ilaa 15 Agoosto jaamacado badan waxaa jira 10 Agoosto 5 6 8 soo jawaabo waxaa laga yaabaa jaamacada taa inay ka mid tahay yar hadda waxaa jira aniga saaxiib aan ahay oo mofcom taasoo kala xareeyay saasay tahay jaamacadiisa aysan weli usoo jawaabin raggii uu la xareystayna mar hore loo soo jawaabay taa macnaheedu maaha jaamacadda inay reject ku dhacday ee jaamacadda processkeeda aad u daahsan waxaan laga yaabaa ilaa 15 Agoosto ka hor inay kuu soo jawaabto soo cabaarka warsug intaadan go'aan ka gaarin cimraan su'aasha labaad jaamacado badan ma apply gareyn karaa ha jaamacado badan waa apply gareyn kartaa laba waxyaabooda ku xadidaay in jaamacadaha ay isku scholarship noqdaan sababtoo ah waxaa dhaana jaamacadda markii aad kasoo dhamaatid oo dokumentiyadaadii ee soo jeegareyso ee tiraahdo ninkan waa noo qalmaa jaamacaddeena wuu imaan karaa waxay u diri doontaa dokumentiyadaada dowladda qaybta scholarshipka haddii marka 3 jaamacadood hal mar ee dokumentiyadaada dowladda usoo wada dirto nimanka scholarshipka waa arki doonaan baasaboorkaaga inaad 3 jaamacadood apply gareyse waxaa lagu dhihi doonaa hal jaamac ugo hal jaamaca ugo i doontaa jaamacadaasaana dhammaysan doontaa oo borsiiska inta ka dhiman ku dhammaysan doontaa waa haddii isku scholarship ay yihiin hadday scholarshipyada kala duwan yihiin no problem 4 jaamacadood kala xareysan kartaa 4 scholarship oo kala duwan mid walbana goonideed markay jawaabta soo baxdaa go'aan ka gaari kartaa midaan waa full scholarship tan waa full kaleete midaan waa partial midaan kale waa partial markay kusoo baxaan admissionka go'aan gaari kartaa jaamacadda dartaa tegi kartaa waxa ayadana ku xakameynaya waxay tahay application fee sababtoo ah jaamacadaha China qaar badan application fee ma lahan haddii jaamacadda xareynayso oo soo dartay ee application fee la'aan yihiin dhowr jaamacad waa apply gareyn kartaa haddii laakiin application fee ay yihiin xoogaa waxaa laga yaabaa meesha inuu culays ka imaado oo jaamacadaha qaar application feegooda waa $60 kuwa qaar waa $80 kuwa qaar waa $120 markaad tiraahdo 8 jaamacadood oo min $120 apply gareyna almost $1,000 ka badana apply gareysa waay number adigu kugu noqonay waxaa isku daydaa marka inaad balance gareysid dhowr jaamacadood oo free dhowr jaamacadood oo maxaa la yiraahdaa $60 dhowr jaamacadood oo 80 haddii markaas aad ka bixi kartid focuskaagana ha ka wada dhigin lacag la'aanta bes oo ku tigood application fee la'aan ha ka wada dhigin sababtoo ah dadka soo apply gareynayaba jaamacadaas way kaasoo buuxinayaan qof kasta wuxuu rabaa lacag inaysan ka bixin application fee waa lasoo wada buuxsamaa laakiin waxaa isku daydaa dhowr jaamacadood oo back up ku oo application feegooda aad bixisid iyo kuwo kaleeto application fee la'aana isku balance garee scholarshipka application feega iyo jaamacadda aad xareynaysid
su-aasha maxamuud uu weydiiyo gb-ga ah gb-gani waxuu factor weyn oo saameyn la waaye average ahaan 75 hadduu ka yareeyo percentage a full scholarship ku heshid xoogaa way adag tahay haddii maxaa la yidhahdaa aadan research papers kalete iyo experience letter kale iyo wax iyo maxaa la yidhahdaa wax kale aadan ku qabin oo aadan ku qarnin oo aadan dhihin ninkan gb-giisa waxaa hooseeyey wuxuu ahaa wax kaloo ku mashquulsanaa research uu sameynaayo meelo kale ka shaqeynaayo experience letter waraaq uu wataa koorsooyin kaleeti shahaadooyin kale wataa saasaa gb-ga u hooseysiisay oo 75 uga hormarta waa laga yaabaa inay jaamacadaha kugu aqbalaan laakiin haddii transcript bas aawatid experience letter iyo shahaadooyin kale wax kalena aysan la socon gb-gaagana uu 75 ka yaryahay cariiri waay 80 90 iyo wixii ka badan waa very good haddii 80 aa ka badan tahayna still waa fiican tahay laakiin mar walba waxaa isku daydaa gb-gaaga 85 iyo wixii ka sarreeya okay qaybta xigta su-aalaha waxaan ku xijinaynaa cabdikariin cabdullaahi caalim السلام عليكم. cabdikariim magacaaga iyo meesha joogtid su-aasha hore u gal insha allah waqtigeeda aad baa umahadsantihiin waa salaamaya macalimiinta barnaamijka dib baan kasoo qabsaday waxaan joogaa magacaygu waa cabdikariin cabdullaahi caalim waxaan joogaa garowe waxaan ahay bachelor waxaan ahay hadda master candidate saa daraaddeed waxaan rabaa 2 su-aalood su-aasha koowaad ana soo koobaya su-aasha koowaad jaamacadahan China waqtigee ayay furmaan waqtigeesi ayay xirmaan oo maaragtay intay muddada bilahee sanadka ay tahay in mataqaanaa qofka uu aweer ku ahaado si uu xareysto ula socdo tan kale ee labaad wax la yidhaahdo haddii aanan haysan wax la yidhaahdo maxaan ku idhahdaa IELTS test haddii aanan haysan ma aqbali karaan maxaan ku idhahdaa medium of instruction English qofku inuu English kasoo bartay oo letter oo jaamacad kasoo qaato taas ma aqbali karaan su-aasha kale oo saddexaad qofku hadduu tago meesha China uu tago oo barnaamijkiisa waxbarashada uu bilaabto maxaan ku idhahdaa see waaye nidaamkiisa research see waaye ma jaamacadda professor ku xiraysa ma intaa joogtay wax ku dhahayaan professor la soo xiriir tan kale oo ayadana xigta qofku intuu ku guda jiro study oo meesha joogo fasaxiisu see waaye nidaamka safarkiisa sanadlaha see waaye السلام عليكم هنا حسن قبع mahadsan yahay waxaan ku xijinayaa cabdullaahi mire cabdullaahi magacaaga meesha joogtid iyo su-aashaa qabtay hore o dhan xalima ka horeysa injineer siciidu waa xalima ka horeysa xalima horeysa xalima maxamed soo dhow waa dhowahay waxaa rabaa 2 su-aala qabaa inaan injineerka weydiiyo mid oo mofcon ku saabsan mofcon ani tiimka sanadkan codsadaa ku jiraa bendinaan aha weli hal mar ay gmail oo black testiga ay iga rabaanay soo direen markii aan u diro kadib iima soo jawaabin tiim badan oo isla codsanana JW-ga loo soo diray marka ma dhihi karaa maadaama tiim badan JW-ga loo soo diray bendinkaanay kusoo xirayaan ama jawaab kale laga sugi karaa midda kale aan weydiinaa injineerka CSC-gan oo taabiga fiisayaasha oo markii qofka uu ku guuleysto sii socod ilaa midkii Djibouti asaga ma iska dabaraayo ayaga ma dabarayaan mana ku codsan karaa warqad CID oo aan April oo kaleeto aan samaystay okay sabta umaleynaya waxaan ku xijinayaa qofka saddexaad cabdullaahi mire cabdullaahi soo dhow magacaaga iyo meesha joogtid hore u gal su-aasha mahad baa ka horeeya cabdullaahi wuu kusii xigayaa maad yuusuf waa mahadsantihiin macalimiin sheeg ustaadka waxa weydiinayay sheeg ku dhawaad bil ka hor waxaa la geliyay jaamacad kamid ah China oo scholarship ah
kuliyaddii iyo luuqaddii instructionkeeda ingiriis uu ahaa public administration laakiin maraad dib ugu laabtay markaas degmadii samid dhahay waxaa arkay meel ay ku qoran tahay foomkii student category oo ku qoran exchange student barnaamijkayga exchange inuu igu noqdo nama rabi mastera rabi oo qalad miyaa mase waa jeeno waxay ka sameyn yihiin meeshaas su-aashaasaa qabay okay cabdiqaadir su-aasha koowaad oo xilliga la apply garee xilliga China inta oo caadiga jaamacadaha way kala duwanaan karaan oo jaamacadaha wax yar u dhexeyn karo waxay bilowdaan bisha tobnaad sanad kasto ilaa bisha saddexaad sanadka kale waxaa laga yaabaa jaamacadaha qaar inay ka daahaan oo jaamacadaha qaar bisha afraad gaaraan jaamacadaha qaarna bisha shanaad ay gaaraan laakiin badankood waxay ku wada egyihiin bisha koowaad ilaa bisha saddexaad inta u dhexeyso scholarshipyada hadda aan ka hadlayno waxaa laga yaabaa scholarshipka MOFCOMT oo kale bisha shanaad iyo bisha lixaad in la xareysan karo laakiin waxay u baahan tahay dowlad iyo meelaha inaad soo marto soo liidka halkaas ay u gudbeynaa su-aasha labaad ee IELTS miyaan u baahanahay IELTS khasab maaha TOEFL oo hadaayo waa sheegnay ardayga hadduusan haysan IELTS TOEFL waxaa uga filan inuu qaato Duolingo English test ama medium of instruction hadday haystid jaamacado badan way aqbalayaan so inaad jaamacadda apply gareynaysid hubisid inaad ogashahay medium instruction iyo in kale haddii ogashahay waa ku qaadan kartaa oo tusaale jaamacaddan oo kale tahay hadda sambal usoo qaadanay meeshan waxaa ugu qoran inay u baahan tahay IELTS oo 6 iyo wixii ka sareeya ama TOEFL oo 85 iyo wixii ka sareeya haddii majorka Chinese aad ku baranaysidna HSK4 iyo wax ka sareeya inta marka waxay ku ogolaadeen ardayga majorkiisii hore ee batchka af Chinese ama af Ingiriis ku soo qaatay in laga wareejinayo so medium of instruction jaamacadaha badankooda way aqbalaan su-aasha saddexaad ee nidaamka researchka waa sidee nidaamka researchka maadaama full scholarship aad tahay waxaa dabari doona professorkaaga researchkaas haddii ahaa lahayd maxaa la yidhahdaa labka ama testiyada ama experienceyada iyo kharashkooda waxaasoo dhan waxaa bedeli doon oo dabari doono scholarshipkaaga iyo macalinka jadwalka waxbarashada almost Soomaaliya la mid yihiin jaamacadaha caalamka oo dhan waxaan isleeyahay waa isku wada mid waxaa la furaa bisha sagaalaad waxbarashada la bilaabaa bisha koowaad ee January ay ku eg tahay February iyo January fasaxa la wada yahay March haddana semesterka qaybta labaad la bilaabaa July lagu kala tagaa July iyo August fasaxa tahay haddana September ay bilowdaan ardayda qaar marka qaar waxay hamiyaan in fasaxadaas inta lagu jiro kale ma shaqeyn karaa China haddii aad wadatid student visa inaad shaqeysid waa illegal oo company uma shaqeyn kartid part time shaqey waxyaabahaas ma qaban kartid laakiin waxa dhoofin iyo wax inaad adiga iskaaga u qabsato iyo online inaad ka adeegto iyo waxyaabahaas kale waa la ogol yahay laakiin shaqo toos ah lama ogolo so waqtigaaga waxa ugu faa'iideysan doontaa researchers iyo waxyaabahaas oo kaleete iyo business yar yar oo adiga iskaaga u samaysanaysid xaliima su-aasha koowaad ee MOFCOMT bending oo iga jira MOFCOMT haa sanadkan jaamacadaada ku xiran tahay jaamacadaha isku wada mid maahan 39 jaamacadood oo Excelka ku jira markaa fiirisid isku xilli ma soo wada jawaabaan jaamacado badan oo hadda waxaa jira soo jawaabay ardaydii GW formkii siiyey maxaa la yidhahdaa ardayga ahaana loogu soo diray safaaradda China loo soo diro wasaaradda ila soo wadaagtay oo wasaaradaha qaado haddeetan officially ardaydooda soo bandhigay scholarshipka u helay waa jiraan jaamacado badan oo bending ku jirana way jiraan so ilaa 15 August ka warsug bendingkaas macnaheeda ma aha in lagu kansalay su-aasha labaad oo CSC type B da CSC type B walaa type A walaa self sponsor student qofka lacagtiisa ku dhiganayo any kind of scholarship data ardayga data China waa la sameyn yahay oo haddii waxbarashadaada hal sano iyo dheeriya ay tahay waxaa lagu sii doonaa visa 1 wax la yiraahdo haddii sanad ay ka gaaban tahayna waxaa lagu sii doonaa visa 2 lacagta visa ama ayaga iga bixin doono maya in scholarship oo ay heshid inaa xamar ama Garowe ama Hargeysa meesha aad joogtid aad ka tagtid oo Djibouti aad tagtid oo fiisaaga aad ka soo qaadatid adaa iska dabar doona lacagta fiisaha waqtigaas Djibouti aad ku nooshahay tigidhkaaga go iyo baaga hadba intii kugu baxdo 500 700 600 400 hadba saa ku maareysid adaa lacagtaas iska dabari doono waxaa laga yaabaa in scholarshipkaaga uu ku jiro tigidhka imaanshaha China waxaa laga soo qaadi doonaa Muqdisho ama Hargeysa ama Garowe inkastoo mararka qaar ay xadidaan oo yiraahdaan caasimadda bas wax ka soo qaadaynaa caasimadda bas aan geenaynaa mararka qaarna waa laga yaabaa in haddii problem uu jiro xilliga COVID-19 oo kale ardayda waa laga wareejinayo gobolkooda laga soo qaadayo meesha aad joogtida ku xiran tahay waxaa laga yaabaa inay ku dhahaan marka Muqdisho ka qaadaynaa oo jaamacadda magaalada ku taala ku geenaynaa markii aqoon jabisidna isla magaaladaas ka soo qaadaynaa Muqdisho ku dhigaynaa tigidhka waa laga yaabaa scholarshipyada qaar inay ka qaadaan scholarshipyada qaarna tigidhkaada iska bixi doono
tigidhada China haddii admissionka ay heshid xilli hore iska jaro 700 600 go waa ku helaysaa go iyo back inkastoo aan la jari karin oo 4 sano iyo 3 sano laga yaabo masterkii PhD inay kugu noqdaan ama bachelorkaba so one round ticket 700 ilaa 1000 waa ku helay su-aasha mahad uu i weydiiyey kulliyadda oo maxaa la business administration uu xareeyey exchange waxaa loogu talagalay jaamacadaha xiriirka lala jaamacadaas tusaale jaamacadan oo kaleeto waxay xiriir la leedahay jaamacada waddan ku yaal tusaale jaamacadda ummadda oo kale xiriir kala dhexeeya ama jaamacadda hormuud oo kale ama banaadir oo kale ama simad oo kale xiriir kala dhexeeya so jaamacadaas arday ka socda waxaa la keenaa China 2 semester ilaa sanad ay ku qaataan lacagtooda iska bixiyaan inta badan scholarship ma lahan midaas exchange-ga kadibna waddankooda ku laabtaan hadhow waxay helaan double degree 2 shahaado helaan shahaado uu jaamacadaas ka helay iyo shahaado uu midaan ka helay jaamacadaha marka xiriirka la inta badan Africa kuma jiraan oo jaamacada Spain iyo Germany iyo Mareykanka iyo Italy ka soo jeeda iyo maxaa la UK oo kale ama Asia oo kale Japan iyo North Korea oo kale jiro kuwaas marka ardayda exchange-ga loogu talagalay so exchange hadda apply gareysay waxaan u maleynaa inaadan heli doonin sababtoo ah jaamacadda aad kasoo apply gareynaysid waxay kugu talagelaysaa keliya inaad 2 semester ka qaadatid jaamacadda ay xiriir lana aad ka imaanaysid lacagtaadana aad iska dabar doontid scholarship ma aha so waxaan u maleynaa inaad meeshaas ku laaban doontid mar labaad soo apply gareyn doontid adoo dooran doono master scholarship qaybta kale su'aalaha xigta aad mahadsan tahay ustaadi waxaan ku xijinaynaa Cabdullaahi Mire Cabdullaahi magacaaga meesha joogtid su-aasha qabtay hore u gal Cabdullaahi Mire muudkiis ka qaad Cabdullaahi Mire Cabdullaahi Mire waxaan u maleynaa inuu weydiinayo casharka dib ma u heli karaa qofku dhaafo haa qofku casharka dhaaf dib baa u heli kartaa groupka kusoo dir doonaa Dr. Cabdinaasir YouTube channelkiisuna soo dhigi doonaa halkaasaa ka daawan kartaa sessionka oo dhammaystiran sawir kor galaysa insha Allah okay Cabdullaahi iska qaad gudbina hadii kale okay waxaan ku xijinaynaa Sumaya magacaaga meesha joogtid iyo su-aashaada Sumaya Soomaaliya jooga garan Kismaayo waxaa ahay GB doctor oo yani 1 year ago dhameeyay jaamacad marka waxaa rab inaan hadda master yani apply gareeyo hadda yani scholarship programska yani noo wada sheegtay midka ugu fiican isleedahay waa apply gareyn kartaa gaasha sarawe waxaan ku xijinaynaa Yuusuf Cabdi Xasan Yuusuf soo dhawo magacaaga su-aasha qabtay meesha joogtid السلام عليكم ورحمة الله dadkaaga waa gaaban yahay xogaa ku soo dhawow وبركاته. السلام عليكم هذا مالي مغلا hadda soo dhawow وإن سلام يا دمانتين سوفت ميشان كجرتا waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan ka mid ahay ardada hadda ay kala jaamacadaha dhameeyay waxaan raadinayay scholarship-yada China la xiriira marka su-aashaan weydiinayo ustaadka waxaa waaye aad wuxuu u sharxay scholarship-ka marka qofku oo asagoo xareysanayo sida TB oo kale iyo kuwa kaleeto laakiin scholarship-ka wasaaradda laga helayo asaga information badan ustaadka kama bixin oo qofka waxa wasaaradda bas inuu ka helo mid ku egtahay qof saas ka helayaa mise wasaaradda markaa ka helaysid waxa u baahan tahay inaad jaamacadihii kusoo aqbalaan kadib wasaaraddii u raadsato su-aasheedu intaas waaye alaykum salaam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفوا وكير مقنع مرخى حافظة يا ساشكي ولا دافع لكن هل سؤال روينا ويدي ما عبد الرحمن وي ما قاعد خدمي سؤال شرب حوي ardayga isagoo bachelor degree sanadkii ugu dambeeyay maraya jaamacadda hadduu ka sii qaato caddayn warqada inuu bachelor degree uu sii dhameynayo master degree-ga ma sii apply gareyn karaa China ma ka socon karaa teeda kale su-aasha kale aan rabo waxa weeye waxaa jirta kulano iyo tababaro iyo adduunweynaha ka dhaco
oo jaamacaduhu ay qaabaqaabiyaan oo ay qabtaan talow China ma leeyahay Okay. Soomaaliya su-aasha best scholarshipka ardayda ay apply gareyn karaan waxa aniga ahaanteyda waxaa ardayda u recommend gareyn lahaa inay apply gareeyaan CSC type B in qofka uu director u apply gareysto anso scholarship haddii majorkaaga uu ku jiro labadaas jaamacadood oo bixi doonto laba jaamacad bas aad bixiso waa UCAS University iyo USTC University labadaas jaamacad haddii majorkaaga aad ka helaysid ayadana inaad apply gareysid maxaa la UCAS waxay kaaga baahan tahay professor inaad marka hore heshid laakiin USTC professor uma baahnid toos jaamacadda u apply gareyn doontaa ayadana professor ku sii doono waxaa xigo in qofka uu director u apply gareeyo magaalooyinka waxaa dhahdaa provincial scholarships ama wax ka dhahdaa city scholarships magaalooyinka scholarshipyada ay bixiyaan tusaale Shanghai oo kaleete Zhejiang oo kaleete waa magaalooyin China ku yaalo waa maamul goboleed camal adiga almost maamul goboleed ma gaaraan laakiin almost maamul goboleed oo kaleete waaye Zhejiang oo kaleete Guangzhou oo kaleete magaalooyinka marka waxay ku kala duwan yihiin magaalada hadda caasimadda oo kaleeta Beijing oo kale scholarshipka ay bixiso full scholarship ma ahan soo ardayda Soomaaliyeed kulama taliyeen full scholarship maadaama aysan ahayn qarashkeeda xogaay waxa laga yaabaa dadka qaar inuu xiriir ku noqdo waxaa fiirsataa marka scholarshipka jaamacadda markaad tagtid magaalada ay ku taala jaamacadda inaad fiirsid scholarshipkaas haddii uu leeyahay ka faa'iidaystid hadduu Shanghai oo kaleete yahay waa full scholarship oo kaleete waa ka faa'iidaysan kartaa anso haddii ay helayso sidoo kale waa ka faa'iidaysan kartaa haddii kaletana tahay bigas inaa xooga saartid oo dhowr jaamacadood aa xiriirtid hadhow jaamacaddii kuugu dhowo qaybta ugu fiican stageka ugu fiican aad gaartid ayada ku dhamaysid sababtoo ah hadhow CSC type B da markaa xiriirsid meeshaan CSC da profilkaaga hal akoon bas aa samaysane halka akoonna waxaa la rabaa inay hal jaamacad ku jirto jaamacadaha soo fiiri jaamacadda asleedaa processkeeda ugu fiican yahay rajadeeda inay ugu fiican tahay acceptance waa ka heshay ama stabyadoo dhan waa soo wada gudubtay midaas ku reeb jaamacadaha kale ka bixi halkaas jaamacadood ku reeb Yusuf wuxuu weydiiyey su-aasha ah CSC-da marka laga tago midkan scholarshipka laga helo dowladda waxaa laga helaa CSC type A sidoo kale waxaa laga helaa MOFCOM waxaa looga helaa by wasaarad inaad wasaarad la xiriirtid qof wasaaraddas ka tirsan aa noqotid warqad recommendation ay ku siiyaan kadib xilliga May uu soo baxaa xilligaas May oo bisha shanaada inaa maxaa la yirahdaa informationkaaga ee wasaaradda la wadaagto ayadoo gmailka wasaaradda isticmaalayso u dirto maxaa la yirahdaa safaaradda China kadib safaaradda China ee processka kuu soo dirto adiga markaa aad martid stepkaaga laakiin midkan type A ga ah wasaaradda ayadaa kuu buuxin doonto haddii mar wasaaradda aad tagtid inta badan waxaa la siiyaa ardayda kaalmaha soo gala oo aniga kaleete xilliga 2019 oo kaleeta kaalin kusoo galay imtixaanka dowladda saasoo kale China la igu soo diray ardayda 10ka u sareyso oo imtixaanka dowladda kaalmaha ka soo gala ayaga usoo diro ardayda kaleeto masterka sida ku helaanba haddii wasaaradda ay soo dirto kaleete ayaga u buuxiya stepyadan hadda ay sheegeen in pageka jaamacadda uu ku buuxiyaan inay ku buuxiyaan maxaa la yirahdaa pageka CSC-da inay maxaa la yirahdaa safaaradda la xiriiraan Chinese-ka kadib admissionka ayaga lagu soo marsiiyo admissionka ay kusoo diraan ticketka ayaga ay kusoo jaraan fiisaha iyo xilliga aad doonaysid kuu sheegaan stebyada ku marsii doonaan waxaa laga yaabaa mararka qaar inay ku dhahaan stebyada keligaa mar maadaama master and PhD tahay labada link lagu soo diro linkiga jaamacaddana waa tana linkiga oo maxaa la yirahdaa isheeg governmentiga scholarshipkana waa kana labadooda gacantaada ku buuxiso so markaas 3 jaamacadood xaq u leedahay inaad 3 jaamacadood dooratid 3 jaamacadoodna mid kamid ah ay ku aqbasho uma baahnid marka acceptance letter iyo jaamacad la xiriiridii iyo processyadii dheeraa inaad martid uma baahnid oo hawsha ku fududaa doonto Cabdiraxmaan su-aashii i weydiiyo ah bachelor sanadka ugu dambeeyo haddii aa helo waraaq ma ku apply gareyn karaa haa sanadka ugu dambeeya bachelor haddaa maraysid transcriptgaada jaamacadda ku siin karto waraaq la yiraahdo pre-graduation certificate inaad qalin jebinaysidna ay ku siiso pre-graduation certificate-kaas hadaa ka haystid waa ku qalin jebin kartaa waa si isticmaali kartaa processkaaga waa ku bilaaban kartaa tusaale waxaa apply garee rabtaa jaamacad September ay bilaabanaysaa jaamacaddan hadeertaan August la maraa semesterkii 7aad ku jira kii 8aad ay bilaabaro jaamacadda u tag transcriptkeeda ka soo qaado waraaq pre-graduation certificate ha ku siiso processkaaga bilaabo hadhow waxaa qasaba laakiin markaa China imaanaysid inaad shahaadadaada gacanta ku wadatid jaamacadda Soomaaliya waxaa laga yaabaa July qalin jebisa shahaadadan waxay kusii rabtaa August September sanadka cusub kusii rabtaa taa cariiri kugu noqonay admissionku ka khasaara
jaamacaddaada haddii 2 bil gudahood kugu siin karto 2 bil fasaxa kugu siin karto intaa fiisaha iyo waxa ku doonaysid shahaadadaada aad gacanta kusoo qaadan kartid waa ku iman kartaa jaamacadda ummadoo kaleete xilli hore laga qalin jabiyaa maars oo kale laga qalin jabiyaa soo mar hore apply garayn kartaa way ku furan tahay sanadka ugu dambeeya waa ku apply garayn kartaa wax su'aalaha haddii xigaan qaybta xigto insha allah waa soo gabagabaynaynaa intaana soo gabagabeyn waxaan uga bisin doonaa insha allah ardayda tan laakiin waxa baan ogeysiiyo ardayda waxaa soo dhignay gruubyada waxaa soo dhignay dabcan linkiga ardayda ee xogta laga soo bixinaya ardayda oo kasoo qayb gashay trainingkan marka qof kasta insha allah waxaan ku boorinaynaa inuu si degdega linkiga wuxuu olaan doonaa insha allah muddo daqiiqada ah marka isku gruupka whatsappka waa soo dhignay marka isku daya inaad soo buuxiso wax xaq u yeelan doona shahaadada arday kasta oo soo buuxiya waa mahadsantihiin wax rabaa labada arday oo u dambeeya waa u dambaysiinaynaa waxaan kusoo dhaweynayaa just shucayb cabdiraxmaan cabdullaahi mani cabdulle ardayda hore fadlan gacanta ka qaada السلام عليكم مجاعي وشعيب عبد الرحمن عبد الله انجينير عبد النور هذا ومحسن تاي قال مقلع فيلا هذه هذول مقلع والله سدح سؤال انجينير كوتينا recommendation letterka supervisorkii oo kala ma soo qori karaa ama asoo sharxan PhD oo hadda diyaarinaya asii soo qori karaa su'aasha labaad oo kuweydiin rabay waxa waa masterka maadaama dhahday arday haddoo fiisa waxbarasho ka imaado shaqo oo inuu company u shaqeeyo looma ogol haddii oo masterta dhameeyo heli karaa shaqo oo mali oo kaliyahay su-aasha u dambeyso waa PhD hore ma kasii diyaari karaa markaa masterka dhameeyey ama scholarship processka inaa mar labaad soo maro aa laga rabaa amaasantiin qofka xiga axmed muxuudiin codka furo su-aashaadana hor u gal axmed muxuudiin mayga furo su-aasha hor u gal wali maqlayaa yes ha si fiican magacaygu waa axmed muxiidiin muuse waxaan joogaa garowe ustaadka aad baan uga mahad celinayaa tababarka quruxda badan na siiyey iyo dadkii daadihinaya ustaadka anugu 2 su'aal 3 su'aalood baan qabay 2 su'aalood hore uga jawaabay marka hal su'aal baan rabay inaan weydiiyo ustaad su-aasha anugu hadda weydiinaya waxa weeye hadda process baan siisay qaabka mataqaanaa scholarshipka China loo xareeyo ustaad ma heli karnaa process ka gaaban kan aan u fahano maadaama nahay arday fresha ardayda cusub oo sanadka dhamaysay jaamacadaha aan tababaro hadda kuwaan ka horeeyan aan qaadan ma heli karnaa meelo oo ka fudud oo kale aan ka xareysan karno scholarshipyadan sidaan oo kale aad baan u mahadsantahay ustaad waa mahadsantahay injineer cabdinuur anigana hal su-aal aan kusii darsanayaa ugu dambeysiiyo su-aasheeda waxaan malaynayaa su-aalihii waa dhammaadeen aad iyo aad waxaan rabaa inaan su-aasha aan ku weydiinayo waxa waaye China adduunka way ka duwan tahay oo waxay leedahay applicationo u gaara Gmailka aad loogama isticmaalo asxaabtida aadka igu dhow waxay ii sheegeen markaad professor email u dirtid adoo isticmaalaya Gmailka badanaa spam folderku ka gelaya professorku direct inboxkiisa ka heli mayo marka waxaa lagula taliyay inaan isticmaalo university email aniga jaamacaddan PhD-da ka qaatay university email baan ka haystaa laakiin waxaa jira arday Soomaaliyeed oo aad u fara badan oo aan jaamacadahooda aysan siin student email dabcan haddii Gmailka isticmaalaan professoradu aysan emailadooda direct aysan u arki karin maadaama spam folderka iyo qaybaha uu ka geliyo
maxaa kula talin lahayd marka ardayda ma yahow email baa kula talin lahayd ma qaybo kale aad kula talin lahayd arrintaas inaad maaragtay insha allah iyadana fiirisaan aad u jeclaan la aada umahadsan tahay هذا مدن شعيب haddii qofka uu qoranayo maxaa la yidhahdaa self recommendation xoogaa way adag tahay sababtoo ah recommendation waxaa waaye qof kale inuu kaa warbixiyo dad aa shaqo wadaag tihiin ama boos oo kale ku ah ama kaa sareeyo ama isku mid tihiin isku level tihiin almost inuu kaa gudbiyo inaad tahay qof maxaa la yidhahdaa dabeecaddiisa iyo howlkarnimadiisa ama waxbarashadiisa ama shaqada la joogo kaa gudbin karo falcelintiisa la arki karo so naftiisa ma u qoran karaa qofkaas may qasab waxaa in qofka sare ka title sare hadduu shaqo tahay qofka booska oo kaleeta ama CEO ga kaleeta ama HR ka oo kaleeta inuu u qoro recommendation letter hadduu jaamacad joogo arday u yahayna professor kale inay u qoraan nafsadiisa laakiin maya maxaa la haddii aan dhameeyo shaqo ma ka heli karaa ha adi iyo fursadaada haddii markaas luqad Chinese-ka aad taqaanid oo kaleete ama luqada Ingiriiskaaga ay fiican tahay oo kambaniya aad ka heshid oo kaleete ama iskaaga aad ganacsi u samaysan kartid oo kaleete ha inkastoo ay ku weydiin doonaan shaqadaada waxa ay tahay meesha ka shaqaynaysid meesha aad degin doontid qarashaadkaaga saa ku dabari doontid haddii tusaale aad tiraahdo nafsadeeda shaqo u samaysanaa in bajetyadaas oo dhan aad samayn kartid PhD gadaal ma ka bilaabi karaa ha waxaad samayn kartaa sanadkaaga kugu dambeeya haddii professorkaaga aad si fiican isku fahantaan inaad tiraahdo PhD aa samayn rabaa jaamacaddaa rabaa inaad sii wato uu ku yiraahdo okay jaamacadda xareeso istaabiyadii aad weli soo martid sababtoo ah PhD marka la xareesanayo way ka madax bannaan tahay master baaja soo dhamaysay master ay rabtaa almost steps-ka waa lagaa rabaa markaan maxaa ku dheer jaamacaddii aad joogtaa environment aad joogtaa jaamacadda opportunity-ga xoogaa uu ku fiirinaya oo way ka jeceshahay qofka hadda Soomaaliya ka imaanaya waxay ka jeceshahay qofka jaamacadda joogo buundadiisa iyo waxbarashadiisa iyo maxaa la yidhahdaa dadaalkiisana uu fiican yahay soo jaaniskaaga aad u sareynaa markay PhD tahay waxa ugu muhiimsan waxaa waaye supervisor inuu ku aqbalo oo acceptance letter ay ka haystid haddii supervisorkaaga xiriir fiican idinka dhexeeyo waa almost waa sii wadan kartaa oo fursadaada aad ay uga fududahay qofka haddii kuu soo xareynayo Axmed process ka gaaban ma heli karnaa ha hadday sessionka waa ku sheegnay oo haddii xoogaa Englishkaaga uu fiican yahay waxaa laga yaabaa janalada qaar inaad ku heshid inkastoo ay ku sharaxayaan af Urdu ama luqadooda hadduu Ethiopian yahay af Ethiopian ku sharaxana hadduu Carabi ku sharaxana haddii Pakistan inta badan sharaxdo scholarship-yadan iyo sida loo hadlo kaleete afkooda Urduga ku sharax doonaan waa yara adagtaa in lagu helo qof Soomaali ku sharaxaya laakiin haddii Ingiriis aad fahmaysid waxaad jaamacadda ku qoran akhrin kartid ama aad arki kartid istaabiyada toos loo raacayo af English waa raaci kartaa haddii intaa culays ay ka yimaadaan YouTube aa furtay YouTube-kana isku dayi doonaa step by step inaan mid u sameeyo tusaale jaamacadda sida loo xareysanayo inaan jaamacaddii tago anigii xareeyo wixii lagu qori lahaa ku qoro istaabiyadii wada raaco had iska dhigo qof haddii koo shakhsiyadiisa u xareynayo wixii stable lagaa rabana haddii koo aniga aan maro anoo af Soomaali isticmaalahay halkaas waa iga daawan kartaa insha Allah waxaan rajaynayaa in video badan aan soo dhigi doono haddii intaa su'aalo ka dheeriya ay jiraan tiktoorka waxaa iloobay tiktoor Cabdinaasir tiktoor waxaa niyahow problemkaas waa jiraa oo ardayda Soomaaliyeed inta badan ma isticmaalaan maxaa la yidhahdaa gmailka jaamacadda oo kale hadirtaan gmail ana siisaa gmailkan oo kale la isticmaalaa marka gmail caadi isticmaalaysa waxaa laga yaabaa professorada qaar inaysan helin maxaa kula talin lahayd jaamacado badan hadda Soomaaliya way bixiyaan jaamacadda Soomaaliya oo kale arkayo maxaa la ii sheeg jaamacadda simad oo kale arkayo Gmail University way bixisaa jaamacado kale waa laga yaabaa inay bixiyaan haddii aysan bixinin xalka ugu fudud waxaa waaye laba mid inaad samaysid Outlook inaad isticmaashid oo shirkaddan ay leedahay software waxaa la Microsoft ay leedahay midkan inaad isticmaashid Gmail ahaan u isticmaashid oo halkan aad ka dirtid ama inaad ku nasiibsatid oo Gmailkaaga u dirtid dhowr macallimiinta ku tigood kamooda geli doona spamka qaar kamid uu ka geli doonaa qaarna gmailkaaga way arki doonaan so markaa dhowr jaamacadood u diro oo jaamacaddiiba 30 macallin ka badan ugu diro oo 200 macallimiin u diro waxaa laga yaabaa probability-ga spamka uu ka geli karo probability aad u yar inuu yahay haddii university gmail aad heli kartid ka fiican haddii kale microsoft-gaan isticmaal haddii intaa la waayo inay gmailkaaga ku nasiibso haddii su'aalo intaa ka dheeriya ay jiraan whatsapp numberkayga waa kana wixii su'aalaha whatsappka iga soo qabo haddii WeChat aad isticmaashid mararka qaar waxaa laga yaabaa WhatsApp-ka inaan ka maqanayo sababtoo ah China markaa joogo VPN la iga baahan yahay oo maxaa la yidhahdaa Chinese-ka waxay sameeyaan si systemkooda network-ka iyo security-gooda loo xakameeyo waxaa lagu qasban yahay inay VPN isticmaalaan applicationada banaanka inta badan iska xadidaan so WeChat online inta badan active ka ahay haddaadan WeChat isticmaalin no problem Gmail-kan wixii su'aalaha way igu soo diri kartaa LinkedIn-kayga waa kana wixii connection ama research iyo wada shaqeyna YouTube-ka hadda waa sheegay oo YouTube-kana soo dhigi doona wixii video insha Allah linkigiisana waa kana
tiktok waa laga yaabaa video short marmar inaan soo dhigo ayadana tiktokeyga waa kana then waa kaasa waxaas leeyahay wixii aa u faa'iideyn karta ardayda soomaaliyeed meesha noqoto inaa ugu faa'iideeyo insha allah waxaan rajeynaa arday soomaaliyeed oo tiro badan inay ka faa'iideystaan ayakana ardayda kale u faa'iideeyaan waxa waaye iscaawintan anaga iscaawinayno waa midda keliya oo ku dhisi karna waddankeena adoo wax bartay waa maxaa la yihahdaa waa madaxweynaha mustaqbalka oo wax bartay waa macalinka mustaqbalka oo wax bartay injineerka mustaqbalka oo wax bartay waxaan jecelnahay China oo kale taxdirtaan waddan aad u horumaray waa teknolojiyadiisa dhismihiisa ganacsiyadiisa engineering oo kale IT oo kale waxyaabaha la xiriiro kaleetay AI oo kaleetay cilmigaa markaa qaadano waddankiina u laabano ku apply gareeno waxaan u maleynayaa 30 sano hadda kadib inaan meesha sii ooli doonin si fiican u sii horumari doono insha Allah then waa mahadsantihiin aad aad mahadsan tahay injineer inta kaga mahadcelinaynaa waqtigaas iyo wax weeye jadaalkaas iyo juhdiga aad noo soo hortay adiga wax waaye dhalinyarta wax weeye ama ardayda Soomaaliyeed uga faa'iideynaya